السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا سود هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفتي قيمة قاية بدن سود هذا وولكن مسكين عاوية أضو برتين برنامج الطيادة لها سود هذا إنكس كو وقتي ويقعد يصير أمانيو صويا أصحابتي إذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود هذا أصحابتي إذا شرفتي قيمة قاية بدن وولكن أضو برتين برنامج الطيادة صويا أصحابي صويا أصحابتي إذا شرفتي قيمة غاية بدن سود هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدي علي يا عبدي فتاح معلين يا مختار حجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود هذا أصحابتي إذا شرفتي قيمة غاية بدن سود هذا. وحينها يا وربحنادي وقدم بي قرحي مانت كدعا مقالة مقدشو عبدي فتاح معلين سود هذا معاني إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. عبد الرحمن عبدي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد علي وحي عصب وكسو قاريان دقيسو هدو إلهي رادو. مختار حجي سودو والمدلة مدى ورالكي معاني وراليا كدن بي قرحي مقدشو يري عدي كدن بي سي عدي كالواسوشي دونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سميرة عدي علي جمعالي محمد عمر ياري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما انتين سودو هذا عذر علي نور سودو ولا شيء معنته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي صغرتي لكن أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلها هي سودو هذا أصحابتي ذا في دوغنا الشهر قرية وحينيها يا وحياب الطيالة مقدشو قرحية يدرل مية دحلوهش قرحية يدرل مية دحلوهش وحمد دابا دولة نمدو إني نوغا درتي دولة نمدو إني نوغا درتي وحان جوغني ودران دولة لهين لباطدان إي قرحيدان. تنكي عبد الفتاح معنا سودو وحان دا إنا وحبا اللي يسكوي دين مدحويني هوري ugu horeeyay sheekh shariif sheekh axmed qaraxyada waa dhacayeen dilalka waa dhacayeen inkastoo isagu uu dagaal ku jiray oo dagaalamayay oo al-shabaab meelaha ugu badan ay haysteen qaraxyaduna way dhacayeen laakiin waa dagaalamayay sheekh shariif sheekh axmed saasay tahay sheekh shariif sheekh axmed qaraxyadii iyo dilalkii. وعليكم السلام xidiga xidigow soo dhow. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته habeen wanaagsan mid lamida walaalkay macaani baar yare garaad soo dhow. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo yaaca asxaabteeda sharaftii qiimaha qaayaha badan. sheekh shariif isla xisaabtan ayaa jiray qaraxyada magaalada muqdisho haba dhacaan maxay u dhaceen iyo maanta horaan kugu sheegay maxay u dhaceen iyo ma ahan laakiin qaraxyada please waxaan ka codsanaa video ii share gareysin please waa codsi dadka kale waxa way codsiga ma dhiibtaan laakiin aniga ii share gareeyna qaar kamid oo fiirsanayaan videogayga ma share gareeyaan. waxaan moodaa in booskin waa iga buuxiyeen dadka followiga u baahan oo maalin walba dhahay gudoomiyana aqbal dadkaas u baahan inaan boos u baneeyo. حمزة سودو walaalkay macaani إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. naf walba waqtigeeda ayay leedahay raggaas dhintay saraakiishaas iyo madaxdaas dhimatay iyo shaqaalahaas dhintay iyo shacabkaas iyo ganacsatadaas dhintay maanta ayay ku ekaayeen kuwa dhaawacmay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد النور سيدو إلياس قاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عامر حاجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن علي جيزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتين سودو هذا في دوغان الشرقرية بليز ويدنتين لكن waxyaabaha caadada noqday ayaa ah inaan waxba laga soo qaadin in dawladda nabad iyo nolol
way dadaalaysaa horena waan kugu sheegay ra-iisul wasaaraha iyo kheyrna waa dadaalayaan laakiin dadkii loo inmada xilalka guddoomiyihii gobolka banaadir wasiirkii amniga wasiirka arrimaha gudaha horta waxaynu weydiinayaa yaa yaqaana nijaax degan allahu naxariisto calaykum asalaam soo dhawow rabiil qadar soo dhawow calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu weydiinayaa horta dowladdu dadkaan aan waxba qabanayn maxay xilalka u haysaa waxaa isweydiis mudan dadka waa dhinteen waqtigoodii dhinteene dadkaan aan waxba qabanayn xamdi maxamed walaashay macaanta soo dhawow lafatuna soo dhawow calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mawduuceena waa qaraxii magaalada muqdisho inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ka codsanayaa qof walba oo soo gala inuu fiidooga noo sheergalo baadiyare waa kuu jeedaa macaane maxamed waa kuu jeedaa soo dhawow calaykum asalaam waraxmatullahi xaaji muuse wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada waxaan ini weydiinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa shaqeynayan waa garanay guddoomiyihii gobolka hadduusan shaqeynayn miyuusan mudnayn in laga qaado xilalka iyo isaga ku-xigeenadiisa wasiirkii amniga hadduusan keenayn bal waxaanu weydiinaya bal ilaahaynu ku dhaarta bili fiir waxaanu weydiinaya qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya cid wax iska weydiisa male cid wax iska weydiisa haba yaraate male thank you faisal sheekh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بشكا عداد عرفون سودو ولكن معاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صادق حسن مسري سودو وعليكم السلام أما أنتو عنك عصرنا في ذوي إيشير جريسين وحان ربا وحيابه دعي ومعلوم البضاعة نقد انت وحاد ما تسركيل وحاد انت شغال الدولة ديت وحاد انت هويوين وحاد انت قبل ماشي عارك وقضي waxaa dhintay kuwa shaagadayay kuwa maqaayilaya aa dhintay kuwa baawureya dhintay wax in la iska weydiiyo bal ilaahaynu ku dhaariye qaraxa meesha uu ka dhacay baawur la soo geliyey waan aragnay tiyaatarka baawur haba wadooyinka haba soo mara fiiri wadooyinka haba soo mara gaarigan waa soo galay qaraxa sida waa isqaraxi dadkii dhinto waa dhinteen in wax la iska weydiiyo meeshuu soo maray meeshuu ka yimid wadaduu ka yimid ma hadduu waddanka soo galay maxaalayo degme hebel ku weyday garaashku ku weyday maxamed la iska weydiiye weli wax shacabka loo soo bandhigay ma jirtaa ma fahmin bashka raalli ahaada qadkaa tegey bliis waxaynu ka codsanaa video ii sheergarayseen bliis qarax iyo 14 October waxaa loo soo qabtay niman looga shakiyey lama sheegin gaarigan meesha uu ka yimid cidda soo daysay cidda soo fududaysay garaashku xalay ku hoyday ma jirto qaraxii hotel saxafi oo labadii mar ahaa oo cabdirashiid inay qayto ku dhintay kii dambana uu wiilkiisa ku dhintay cid bini aadan loo soo qabtay male please and please waxaan ka codsanayaa caamir xaaji soo dhowo walaalkii wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kuu jeedaa waa in wax la iska weydiiyo shacabka maalin walba dhimanaya dhiigooda in wax la iska weydiiyo war haddii xataa waxba la iska weydiinayn oo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii xilka qaadeen miyaysan iyaka xishoonin oo xilalka iska dhiibi karin wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga anigu waxba ma taargaraysanayo laakiin shaqada aan ka hadlayo iyaka mas-uulka ah ama santahay bashka looga thank you inkastoo aan qoraalka dambana aanan fahmin intaas hore waa fahmay waa maasan tahay dadka damiir malahan miya thank you waxaan ka codsanaa video ii sheergaraysiin war iyaka inay yidhaahdaan amnigan waxba kama qaban karno maxaa yeelay aniga wasiir amni maanta haddaan ahaan lahaa oo igu wallaahi oo igu bilaahi oo igu tollaahi hal qarax magaalada muqdisho hadduu ka dhaco aan raadkiisa keenayn oo aan arkay inay ugu adag tahayba waxaan leeyahay xilkan waa iska dhiib mas-uuliyad ayaa ku saaran wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hanad yare amiro siiqow
وما سنتي thank you باشك إن وحلس كويدي قرح يضا داعية إن وحلس كويدي يا ديدي مدن مدحويني markaan ku dooranayno ku banaan baxnay please waxaan ka codsanaa video wi share gareysiin ballanqaadyo badan oo aan ku qanacno aan kugu taageernay ayaa noo filis mudana madaxweyne ilaa hadda ma hayn mudana madaxweyne amnigii gobolka banaadir furo ka baxay hal qarax oo aad hal maalin hotel saxafi qaraxi ka dhacay oo ku dhinteen intaasoo qofood ay ku baabaceen oo hooyooyin masaakiin lagu uga baabaceen oo hadda fadhiya ad arkayeen hooyo indhii beeshay aabe labadii lugood ka go'ay gabar uur lahayd oo intaas ka go'day dad masaakiin oo cadiga gadanaya la waayay in wax la iska weydiiyo waxaa u yeertay saraakiishii dhan oo ciidanka madana madaxweyne waxaa tiri waxaan rabaa in cadaymo la keeno qaraxan meesha u ka yimid cid bini aadan oo meeshaas ka soo qaada male shacabka gobolka banaadir iyo shacabka magaalada muqdisho way og yihiin cabdullaahi siyaad dhakos oo ku taagana walaalkay macaani cabdiraxmaan cabdullaahi dhoorre oo ku salaamaya walaalkay macaani shaqadan ma ku fahmin cabdalle shaqadana gadaala laga soo galaa thank you oo maasan tahay cumar abtidon waxaan ka codsanaa videogii sheer garaysan waa codsi waxaan ka hadlaya waa waxyaabo taya leh in wax la iska weydiiyo qaraxyada dhacaya magaalada muqdisho qaraxyo uma helin dhaxal dilalka magaalada muqdisho oo lagu dilayo dhalinyaradeenna uma helin dhaxal in magaaladeena ay qashin dhex fadhiso uma helin dhaxal in nalalkii kuwiishna ay sii dameen oo xamarweyne iyo lambar afar xamarweyne iyo waaberi iyo xamar jajab ay sii dameen dhaxal uma helin in wax la iska weydiiyo miyaysan ahayn thank you مسكين وما سمتها thank you إن واحد ليس كويدي مثلا مدحويني شعبك قبل كبنادر وها أي كسوجين وقبض إن الله تماد إلا هذا هل أو إذا عد أنت استكتي أو فعل على حتى كوكنا اسم مجر ممالون والبمواحد سوق إن غرح كلا هذا مقالة مقدش كبوحة أو ضدك لقصي أي على شبابنا إجوا عن صدين إني ميل والبقر هنا يعني بإله إن كداريه muqdisho mool meel laga soo galo mare waxay ka xiran tahay gobolka banaadir dhinacaas iyo markii laga imaanayo darjijo daasoon waa ka xiran tahay oo dhinaca madaxtooyada iyo dhinacaan kalena way ka xiran tahay oo baalkii iyo sheeg maxaa la liido oo dhinacaas mool laga soo maro dhinacaan kalena way ka xiran tahay oo xamarweyne oo baabuurta bajaajyada meel joogayaan checkpointiga baabuurka markuu yimaadana meel ayaa laga furaya bal ilaahay ku dhaariyay gaariga qaraxaas sida thank you taas qaraxaas baabuurka sida miyaan la ogaan karin qaraxa haddana intuu soo waday oo muqdisho mool horteeda ku baakin waan iskaga tagay waxaa loo soo dhiibay qofkii la yiri meeshaas gee ee fudude nooc rabaa hado nooc qofkii keenaba miyaan la ogaan karin qofka baabuurka meeshan ku baakimay gudoomiyihii degmada xamarweyne iyo saraakiishii degmada xamarweyne wax ma laga weydiiyey in wax la iska weydiiyo qaraxii magaalada muqdisho maxamed giil oo kusoo wacaya qofka ugu horeeya adiga tahay oo maasan tahay wacalaykum assalaam cabdalle xuseen in wax la iska weydiiyo thank you bashka afar meel ayuu ka xiran yahay waxaan ka codsanaa videoga ii sheer garee si aan xoog badan inii siiyo haddii kalena waa iskaga baxaya please and please 68 qofood ayaa daawanaysa hoos ayaa u sii dhacsiin videoga ii sheer garee si aan barnaamijka tayada leh in ku warbixiyo please and please waa codsi in wax la iska weydiiyo qaraxa meesha uu ka yimid bal ilaahay in ku dhaariyo ka gudub xal meesha ku weydi qaraxan waxaan aaminsanahay meesha ay bahashi ka qorunta inay sheegeen waa gudoomiyaasha degmooyinka meesha ka qorunsan tahay degmadan ayaa mas'uuliyadooda dadkii loo saaray waxba aan laga qabanayn maxaa yeelay qof intii lagu dilaa laga tagaya waxay maraysaa in degmadii horteeda dadkii lagu dilo waxay maraysaa in madaxtooyada hoosteeda dadka lagu dilo bal ilaahay ku dhaariyo inaan xog badan inay siiyo ayaan rabaa videoga ii sheer garee
haddii kale waa iskaga baxaya. Ayub, thank you. Please and please videoga ii share garay, waa codsi qof walba gruubyada ii share garaa ku qabto. ininka aanan ka codsanaya waxaa in la wadaagay maaha inaan Facebook iska soo galay oo qof ataagayo qof caynaya qabiilkiisa iyo ejisirkiisa ma waxa aan ka hadlayo waa waxyaabo jira. bal ilaahay ku dhaariyo gudoomiye degmo oo degmadiisii loo inmaday 60 qofood aatiin dhiig isku yaala videoga share garay please. thank you xidig, thank you. in gudoomiye degmo iyo taliyihii degmada iyo taliyihii nabad sugidda degmada ayaaba jooginba. gudoomiyihii degmada Shibis dadka ayay guryahooda ka boobeen. waa kaas maasha Allah, thank you Umar. in wax la iska weydiiyo bal ilaahay ku dhaariyay in wax la iska weydiiyo. Cabdalle cilmi waa ku jeeda walaalkay macaani Maxamed Geel, thank you. please and please video share garay marka in leeyahay in wax la iska weydiiyo. gudoomiyihii degmada iyo taliyihii degmada iyo taliyihii nabad sugidda ma joogaan degmadii. markaasaa degmada horteedii xataa saldhiggii hortiisa dad lagu dilay. waxay ahayd in ay ka caaganaato ugu yaraan 20 kilomitir in degmada agteeda aan qof bini aadan xataa looga shakin. in dadka aagaas degan dan ay noqdaan dad u heeliya degmada agteeda. in wixii qashin guraya xataa inay sheegaan miyaysan ahayn? please and please thank you. waxaan ka codsanayaa in videoga ii share garaysan, waa codsi. thank you. waxaan u malaynayaa marka in waxaanba meesha dhibaatada magaalada Muqdisho ana inay cadeynayso ma ka baxayso Muqdisho. hadda ka horna waa inii sheegay qaraxii saxafi ayaan waxaan dhahay qaraxyada magaalada Muqdisho ma joogsanayaan. markaasaa Dardiji Daason iyo tiyaatarka la geliyay oo ku dhintay Awil Daahir Salaad aad ogeydeen. maantana waa midkan intaas oo qaraxyada ay sadhicin magaalada Muqdisho waxay u ahayd dilal magaalada Muqdisho. in dadka la dilo, in gabadha aqoon-yahanada la dilo, in qofka active-ka ee u dhaqdhaqaaqaya ama ahaado ganacsi ama ninka wax walba leh. ilaahay ku dhaariyay bal meel kale aadin iska dhaaf qaraxyada dilalka iska dhaafe in wax la iska weydiiyo 5 jimco oo isku xigta in Muqdisho suuqyadeeda ay gubtaan oo cid bini aadan wax iska weydiisay ay jirin. ilaahay ku dhaariyay ilaahay ku dhaariyay qofka thank you. waxaan rabaa please and please waxaan codsanayaa ana qofkii caytamaya qofkii kale block ku qabanaya please waxaan ka codsanayaa ina videogaas ii share garaysiin. ilaalada wadada aqoon uma leeyahay may waxa ka daran waxaas aniga ku sheegaya soo daa waxaan ka codsanayaa videoga ii share garaysiin in meesha ay ka bugto way horaan kugu sheegay Khayra iyo Farmaajo way seexanayaan. Muqdisho qarax iska dhaaf dil kama dhaceen. haddii gudoomiyaha degmada taliyaha degmada horaan kugu sheegay xogta waa siiyay ra'iisul wasaaraha waa siiyay saraakiisha waa siiyay cid walba baraha bulshada ku baafiyay. horaan kugu sheegay Muqdisho qaraxeedu waa istaagay. haddii la helo gudoomiye lala xisaabtamo taliye lala xisaabtamo ee degmo taliye nabad sugidda lala xisaabtamo. thank you. soo qabanaya please qofka ugu horeeya waxaan ka codsanayaa videoga ii share garaysiin. waa maasanta Axmed soo dhow walaalkay macaani in magaalada Muqdisho ay noqoto please and please videoga ii share garay please. waxyaabaha meesha Muqdisho ay ka dhimatay inay sheegayaan in maalin walba degmo qof lagu dilo ay lugayaan. thank you. soo qabanaya iftiin soo qabanaya waxaan rabaa inaan ka codsado videogaas share garaysiin, waa codsi. waxa in la wadaagayo waa xog sir. gaarigan degmo ku xariisnaa qaraxa siday xalay degmo ku hoyday. waxaa laga yaabaa ninkii degmadaas geeyay garaashkaas geeyay inuu ninka garaashka aqoon u leeyahay. kaba soo qaado anoo aqaan ayaa la keenay gaari waxay leeyahay Ismaaciil waa taqaana ninka garaashka wade garaashka geey gaarigan ku xareen furaha bari ninka la u dhiibaya waa soo wacaya hebel waxaan leeyahay hebel gaarigu dhiib. ninkaas ayaa qaraxa fulinay. waxa kaartooyinka ay dheelaana inii sheegay al-shabaab
nagu soo celiyo thank you xasan aan kugu soo celinaya please videoga share gareeya please markaad gaarigan degmo ku xarooday maxaa yeelay gudoomiyihii degmada iyo taliyihii degmada iyo taliyihii nabadsuguda degmada ma shaqeeyaan degmada way qaawan tahay burcada dadka dhacda burca al-shabaab degmadooyin ku dhex dila ka gudu marka taas gaarigan garaashka lagu xareeyay degmada waa soo baxay wuxuu yimid meel checkpoint siduu u gudbay waa gudbay checkpoint-gaane siduu u gudbay ka kale waa gudbay ka kale kii birta ku xidhan siduu u gudbay miyaysan ahayn in wax la iska weydiiyo iska habo ay tiri thank you waxaan ii sheegaa videoga ii share gareeya please and please waa codsi hogan haydar shiin oo kusoo qabanaya please and please videoga soo bataan dadka waa kusoo qabanaya waxaan ka codsanayaa in videogaasi share garaysiin in waxba aan la iska weydiin in qaraxyada magaalada muqdisho garo aan waxba la iska weydiin thank you fiiri ka gudub dilalkii iyo qaraxyadii bal madaxweynihii ra'iisul wasaarihii gudoomiyihii gobolka ma iska weydiiyeen hantida gubanaysay shacabka ee magaalada muqdisho degan oo aan qof qabiilba maanta lagu lahayn waxa gubanaya waa dad masaakiina hantidoodii waay hudhay waxa gubanaysa maacuuntii gubanaysa bal ilaahan ku dhaariyay in wax la iska weydiiyo ra'iisul wasaaraha uu yiraahdo gudoomiyihii gobolka inuu yiraahdo waxaan ka rabaa 5 jimce ee gubatay thank you sahib thank you bashka waxaan rabaa inaan runta inii sheego please and please video ii share gareey please and please thank you waxaan ka codsanayaa video ii share gareey in wax la iska weydiiyo kaliya in la yiraahdo gudoomiyaha gobolka waxaan ka rabnaa cadeyn in gudoomiyihii degmada la weydiiyo howlwadaag iyo isheeg degmada waa bari in wax la iska weydiiyo qarax dabkan kacay bal listi waxba waa ka qaban waayeen qaraxii bal waxaan ii sheegaa in shacabka magaalada muqdisho la nacay bal aan ii sheegaa cidda bari rabta thank you xasan waa oga bal ilaahay ku dhaariyay videoga share gareey in wax la iska weydiiyo dawladii waxay tiri dilalkii magaalada muqdisho waxba ma laga qaban karo qaraxyadii waxay tiri waxba ma laga qaban karo cid lagu la xisaabtamayna ma jiro cid xil wax loo qaadayo ma jirto waana aragnay maxaa wax looga qaban waayay dabka xataa maxaa dabka wax looga qaban waayay ba ilaahay ku dhaariyay shacabka magaalada muqdisho inay noqdeen dad la baabi'iyay fiiri hadda waxay ahayd dawladdan markay dhalatay in dhiigooda la badbaadiyo waxa kaliya juhdi lagu bixiyay inay noqoto xataa amniga magaalada muqdisho dawladda waxay haysataa ciidan aad u tiro badan ayay haysataa dawladda haddana aad u tababaran oo dhalinyaro oo haddana ku biirtay 14 October waay aad degmooyinka xataa 20 loo siin waay oo faraha looga soo bixin waay cidda amni darada xataa ka haysa maaha amni darada kaliya kuwa nadaafad darada xataa ku haya dawladnimada degdeg ku imaan leh waxa la gaari lahaa in 20 la codeeyo oo shacabka codeeyaan la gaari lahaa kaliya codeynta magaalada muqdisho kaliya ay noqoto inta laga gaarayo 2024 inta laga gaaray bal ilaahay ku dhaariyo videoga share ilaahay ku dhaariyo marka in leeyahay qabiil kama hadlayo waxa inuu soo gudbiyaan waa xog jirta waxaan rabaa inaan iraado qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya inay sheegay haddii dawladii ka wax dilay qaban weyso baabuurta qaraxyadana ay qaban weyso bal ilaahay ku dhaariyo bal fiiriya magaalada muqdisho qarax markuu dhaco waxa yimaado niman cadaana bal ilaahay ku dhaariyo bal fiiriya niman cadaana yimaado waxay baaraan qaraxyada ay baaraan ma keeneen wax cadeena marka bal cadeyn ma keeneen haba baareen cadeyn ma keeneen bal in wax la iska weydiiyaa mada ciidamo cadaana yimid maxaa nagu soo kordhiseen maxaad keenteen ma naga fiicantiin shacabka magaalada muqdisho degan hadii ana kaliya laga hen bal ilaahay ku dhaariyay filinka hindiga meesha ka socda inay sheegaan thank you farxiye waxaan rabaa inaan in la wadaago xogta ayaan rabaa inaan in la wadaago please and please in wax la iska weydiiyo shacabka dhiigooda daadanay
warqarax ayaan ku soo baaba'nay 14 Oktoobar aan ku baaba'nay laba qarax oo isxigo mataana oo hotel saxafi haddana laba kale oo qarax oo mataana hotel saxafi bal ilaahay ku dhaariyay dadka noocaasa bal daar salaata qaraxdiisa waxba laga qabo bal ilaahay ku dhaariyay oo aan magaaladii Muqdisho la leeyahay maamula ka jira السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ايبو ما في عندك برادا ان اديغو ما سن حقتا انا لو وداغيس maxay tahay وحيرسك هيرفون قشنا ايه waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo jirta in wax la iska weydiiyo qaraxyada maxaa diiday in qof lagu la xisaabtamo maxaa diiday السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ايبو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي ورا من في عندك ميمكا واكو مغلا ولا لو هوتر والله علي برنامجيدا waa daawada band ايه waxa waaye qof walba wuxuu aqoon u leeyahay inuu ka hadlo way fiican tahay moog fiican aad beema ku sheegay last 3 years waxaan security ka ah meel weyn oo CCTV camera baabuurta soo galayso baabuurta baxayso registrationka waxoo dhan band si fiican hadda qarax saaka waa daawanaa aniga ايه hotar saddex walxaata u kala dhigayna cawd runta ku sheegaya meeshuu qarax ka dhaca wada weyna soo gasho hadaa daawanays wadadaas baabuurta isticmaalayso oo dhan waa la yaqaanaa kaba soo qabo wadadaas waa wada business moogtaa walaalkay runta ku sheegaya baabuurka maanta soo maro beri soo maro beri daba soo maro waa la yaqaanaa baabuurka aanan weekend aan soo marin oo maanta uu ku cusub yahay macnaha qaraxan ku sheegaya fiiriya qarax ina baabuurka soo galo soo socdo qaraxu eebo ilaan baabuurku waa la soo gelin oo meel la dhigo waa moogta ana hadda example waxaan ku sheegaya maalina waxay dhacday meesha waa meel aniga aan ka shaqeeyo meel weyn waaye qof waa parking free oo raadinaya parking ko soo dhig laba saacadood markuu meesha yaalay staffka dadka ah loo maleynayay laba saac markuu meesha yaalay ilaan baabuurka soo galo kamerada screenka baabuurka registrationka ma laha Soomaaliga laakiin inta weelada registrationka sawiraya si fiican 2 hours markaan waayay qofka baabuurka waxaa sameeyay registrationkii aan qortay registrationka meesha geliyay waa baabuur qofkii magacii wixii dhan systemka soo baxay laakiin Soomaaliya ma laha laakiin waxaan example kugu sheegaa waa la yaqaanaa ma baan because isla marka baabuurkaas inuu baabuur oo dadka shaqaalaha ee waxaa lagu ogaadaa baabuurkaas inuu baabuurka dadka shaqaalaha ahayn waa cusub yahay iyo systemkii wixii dhan diiday ma fahanti si fiican marka waxaan kaaga wadaa hotar waxaan to z waa isdaba taagayin intaan kuu sheegaa ma fahanti midda kalena waxaan kuu sheegayaa kaba soo qabo degmada howlwadaag si fiican waxa kaliya loo baahan yahay mataqaanaa saddex qofood in lala xisaabtamo bas ay u baahan yihiin gudoomiyaha degmada si fiican taliyaha degmada iyo taliyaha amniga gudoomiyaha amniga ilaan gudoomiyaha degmada gudoomiye amni oo leeyahay mano saddexdaasaa la leeyahay saaxiib maanta qaraxa dhacay haddaadan saddexdiina meel saarin saddexdiina inaa ka dambaysiina la caddaynaya war baashu runtay rabtaa mogtaha ebo runtaa kuu sheegaya saddexdiina war ma ogi ma jirto ilan waa soo shaqo tegtiin maano haddii kale haddaan meesha lasoo shaqo tegin waa wax kale mogtaha saddexdiina gudoomiyaha degmadan ku dhahay iyo taliyaha degmada iyo midka amniga saddexdooda way og yihiin sax
waxaa la leeyahay saddexdiina haddaada keenin saddexdiina aaba idin lagu qaadaya teeda kalena barnaamijkaaga anigu waa keeday laakiin barnaamijka waxa waaye xaqiiqda cabdullaahi ma rabaan maxamed dadkan aami inay xirsi taabtaan blogan ku qabta brada ka gudub waa mahadsan tahay blogan ku qabta si fiican aye mi fahanta brother war meeshan wallahi bim ku sheegay war baabuurka checkpointyo soo marowa war waxaan in la isgudbino waxaa ka dareemaysaa ma yaa taqaana gudbinaya leedaha marka yaa gudbinaya fikirkaaga sheeg adiga waxaa gudbinayo kaba soo qaba degmada holwadaag maanta qarax saaka holwadaag soo koma dhicin xamrweyne dadka ciidamada nabad sugidda taliyaha degmada xamrweyne gudoomiyaha wax oo dhan waa ogyihiin haddayna ogeyn fiiri teeda kalena qof wax loo soo qabanayo ma aragta adi hotel waa may qofku wuu isqarxiyey ma la heli karo qaraxiina waa dhacay lama heli karo laakiin connectionkaa la rabaa raadkii meeshii ka yimid gurigii lagu xareeyey ciddii fududaysa in la helo waxaa lagu heli karaan kuu sheegayaa marka gudoomiyaha degmada taliyaha degmada iyo taliyaha amnigaa lasoo fadhiisinayaa saaxib waxaa laleeyahay saaxib waxaa midin sheegaa waxaan waa dhammaatay saddexdiina haddaadan proof keenin ilan waa lays yaqaanaa meeshaan saaxib adiga intee ka timid ani monopolia ka imaada wallaahi bilaahi qofka oo istanyeeriga hore laga fahmi jira kan waa cusub waa maasantahay maxaa kusoo gabagabaynaysaa dadkanaan jaanisiinana waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan eetusad waay soomaaliya waa loo tastay gudoomiyaha gobolka banaadir labada maalin saddexaad xafladu iska dhiganaya kistii ummadda canshuurta waa laga qaadaya suuqa bakaaraha waa la gubaya war waxaan waa eetusad ko number 1 ilaa iyo 100 waxaan aniga haddii laisla xisaabtamo dadka wasiirada iyo madaxday gelaysaa wallahi thank you maasantahay thank you inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatun mawt waa xaqiiqo jirta horaynu kugu sheegay dadku madaxweynaha kama aqoon yarin ma naga aqoon badna kama aqoon yarin waxa jira iyo waxa la qabanayo waa ognahay qofka jira thank you inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatun mawt waxaan rabaa inaan inii sheego in wax la qaban karo qaraxa magaalada muqdisho uma baahno iskoosyada xataa in la xiro uma baahno 12 degmo assalaamu calaykum calaykum asalaam may maqashaa walaal walaal soo dhow si fiican barnaamijka ma la socotay haa si fiican waan ku dhegeysanaya cabaar haye labiyo hal adigoo mahadsan horta aad baan uga taxsiyadeynayaa dadkeena maalin kasta for no reasonka ku weyno ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun si fiican وإنا إليه راجعون midda labaadaan rabo inaan ku darsado waxay tahay waxaa horta kusan lahaa dhalinyarada special aan nahay inaga hadda oo maanta wadankeena inagu u baahan Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya maanta ma aha dhul inoo baahan inaga u baahan inaan fiirsano inaga u baahan inay awlaad fiican ugu dhalato inaga u baahan in qurbaha aan ka maarano inaga u baahan marka dhulkan inaga u baahan nooma baahna Soomaaliya haddaad ka carartida joogtaba bari ka maalin waa dhulkaaga talabaadana dadka waxay tahay inaynu awlaadeena badbaadino maalin kasta wiilka yar qaraxa loo dhiibay hooya dhashay dhibaatadan iyo musiibadan iyaga kama imaato dad nool xagee is leedahay waa looga hortagi karaa qaraxyada iyo qaabkee ay shacabka lagu badbaadi karaa mid baa anigu dhihi karaa waa laga badbaadi karaa horta haddaan Soomaali nahay filimkan siyaasad iyo hebel baa kursi ku fariistay iyo qabiilka haysta aan iska dayno especially waxaan la hadlayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee maalin kasta awlaadooda ka wax qarxinayana hooyaa dhashay kala qarxinayana hooyaa dhashay mid baa hooyadiis kaga dhimanaysa inaan iska dayno aynu qabiilkan oo 24/7 like intaasoo sanaynu isku haysana qabiil intaasoo sanaynu isku haysana kursi dhibaato mooye aan faa'iido maanta aynaan ka keenin more than 30 years dad baa kursi nagaga dhimanaya ilaa dawladii siyaad bare dad baa kursi ku dhimanaya
faa'iido aan ka helnay dhimashadaasna ma jirto waxaan ahayn dad Soomaaliyeed in ay si xun oo fool xun inaga tagaan maalin kasta talabaad oo qaraxyada ah waxa ka codsanaya dadka Soomaaliyeed in la iska qabto waxa la yiri sun waxa laga qabtaa xididka ka soo gasho hadduu maas ku qaniino oo jirkaaga inta kala xidhood meeshu ka qaniino xirin suntaasi ka bixi mayso wiilashan yar oo waxba aqoonin oo diinta si fiican aqli ugu lahayn oo laga la waalayo oo beenta iyo balaayada iyo janno aan jirin inta looga sheekeeyo xataa qaybtood daraag inta lagu duro iyagoo maskaxdooda joogin na laga dilaayo ummad masaakiinana gacantooda lagu kala sanayo waxa ka dambeeya waa naqaana aan iska qabano odayaashaas wahaabiyiinta Soomaaliya waxa jira odayaal wadaada ah oo aan dhimanaynin oo soo taagan oo gabdhaheena yararka abuse gareeyo every single day oo aan yacni naftooda dhibaato gaarin oo ganacsiga Soomaaliya inaga waxaan u jeednaa kulligeen way naga caqli badiyeen dawlad bay noo jeediyeen siyaasad bay noo jeediyeen dhaqaalaha Soomaaliya rag baa gacanta ku haysta iska dhigaaya inay diin inagu maamulayaan wadaad isaga keen dhigaaya khamiis intuu ku soo gashto gar kuula baxo qof wadaad kuma noqonayo waa inuu xaqa ummadda islaamka iska ilaaliyo waxa hadda dhiigeen waxa laga dhigtay business maalinta wax yar isku kacaan laba qof isku kacdo qarax baa la ridaaya nin baa qarax soo ridaaya ummadeeni iyo ciyaalkeeni waxay noqdeen competition waa lagu tartamaya dhiigii Soomaalida waxay noqotay competition ninka maanta qaraxaas Muqdisho dhigay oo dadkeena masaakiinta allaamiga dhagaxyada iyo buuraha ugu dumiyay uu nool yahay maanta uu soo taagan yahay inagu nagu dhex jira wuu fadhiyaa wuu qoslayaa anagana maxaan ku maqanahay hebelo ma rabno ree hebel ma rabno ma soconayso Soomaali ilaahay inta ka yaabno oo dalkeena u naxariisano ummadana iska qabano odayaashan tuugada ah oo dhaqaalihii wadanka gacanta ku haysta min raas kambani ilaa raas caseer akhwaan ba isku yihiin walaalo isku yihiin waxa halka u taagayna waxa waay tis inay dhaqaalaheena gacanta ku dhigaan wiilasheena qayb badda ka tuuraan qaybna ayaga ay qarax u soo dhiibaan oo dhahoojana galaysa ama wax kale ama daraag lagu duro ama la sirxo ama wax lagu sameeyo waayo aniga waxaan taaganahay wiil yar oo Soomaaliyeed oo maskaxdiisa 100% joogto inuu dadkiisa dilaynin waa wax bini aadan ka dagaysa ma aha ciyaalkan waana laga waalay wadaadadan kalena ani wadaadadooda mooda caay qayb fiican way jiraan hayay ka aamusinay naftooda u baqina diintan Ilaahay masuul uga dhigay ha u tagaan ilmaha yarka oo baadiyaha jooga oo maanta Facebook soo gali karin oo TV ka daawan karin ha gaarsiiyaan sida Sheekh Kenyaawi ha lugeeyaan wadankooda ha tagaan ha ka qabtaan dulmigan iyo tuugadan u soo tashatay oo mid kasta shaar cusub u soo gashanayo oo dhiigga ummadda Soomaaliyeed daadina hadii Ilaahay ka baqayaan oo diinta masuul nooga yihiin gabadha oo soo gasho oo lugteeda soo qaabiso ama naagtay haysto kulligood safay u soo galaan fiiriya abo laakiin marka 500 oo qof maalin weyne hal sheekh oo dhahay war waxaan waa xaraan war ilmaha yarka ah wacyi gelin war ilmaha yarka ah baadiyaha laga soo kaxaynayo ayagoo beeraha falaa qarax loo dhiibayo oo diin jaanis u helin oo waqti macallin jaanis u helin badbaadina ma kuma jiro nin walba wuxuu ku leeyahay nafsiga markaan leedahay ilaahu ku weydiin ilaahay iyagu ka xisaabinaya diinta ma aha wax ciyaar ah ma aha wax oo dadka markay isku guraayaan isku leenayaan ay ka aamustid marka naag ay wax tiraahdo ama ay meel soo istaagtana aad tiraahid ilaahu dhulka uu nagu soo dumin ma noqonayso marka Soomaaliya dadkan walaa sheekh walaa shaarbaweyne walaa wasiir walaa madaxweyne kulli aan faraha kala baxan ayaga ha is cunaan ayaga ilaahay dhibaatada iyo sharkeena ugu wado ilaahay guryahooda ha ku celiyo oo meesha uga amaantay ha ku celiyo oo musiibo ah ilaahay waa caadil wuu og yahay annaga maanta haddaan daciif nahay oo aan qalbiga qaa'ibka ogaan karin oo kana qarxiyo uu meesha qarxad la taagan yahay aan ogaan karin ilaahay wuu arkaa aan ka sinaan iskana deena qabiilkan iyo balaayadan baaso dhowr iyo 30 sano qarax waxaan ku dhashay dhibaato ilaa hadda dhibaatadii aan dhex taaganahay mana dareemayno waa iscaynaynaa dhalinyaradeenna waa jobless Facebook 24/7 fadhiyaan waxa loo soo dirayaa tascay iyo qabiil iyo hebelo waa gaal iyo hebelo waa muslim iyo hebelo waa noo dhow iyo hebelo ma noo dhow ummad adduunka banaankii waa xataa lagu diray gudaha iska dhaafay marka aan iska deeno abo adigana aad u mahadsan tahay dadka masaakiinta oo dadkooda maanta ku waayeen aad u tacsiyadeynaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un thank you so much inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa mahadsan tahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un muqdisho dhaxal uma helin qaraxyada iyo dilalka
وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت الذي إقرابدي أصحابتي صاحبتي لما يردي ريورديق ليها وشنطها نقدي مطي إلهي وحان بريا إنو السمر نقصيو أنا إسماعيل هان سويني إيتا بنسا لما يردي دي صاحبتي ضد بدن أو أقون عليها ينكوايي إلهي وحان بريا إن إلهي جنة فردوس وجيو لكن مقدشو أمير علي أباي كاميرا كومة البنا كبح قصونه عبد الله هي يوك سلام ركان قاد والكي معاني برنامج كمال سعود ولا السعودية قاعد بكون جيسنا وما سنتين نكاب بلوكنا قبطي نيو أنا غير مقدشة هاي أبي أقول شغله كاميرا كومة البنا وأنا ركبتنا إجرا اللي هاو وحبذا عدكي كومة دقسي كرو نيو هو gabadha hadda horta way mahadsan tahay gabadha horta way mahadsan tahay hadda hadliisay wax walba oo badan oo aan ka hadli lahaa horta iyadaa ka hadashay niyo waxaan kuu sheegayaa guddoomiye dadka soomaalida shacabka gaar ahaan reer muqdisho niyo horta dhibaato soomaali guud ahaan waxay uga bixi kartaa inaan iska dayn horta qabiilka oo nin jeclaysiga nin walboo siyaasiya iyo nin walboo madaxa dantiisa iyo ilmihiisa wuxuu u yahay reer qabiil wax ka galabana adigu kugu orkacsanayaa ma garatay wasiirada iyo nimanka mas-uuliyiinta qaarkood uqubada ay ka qaadeen waxaa kamid ah wiilashoodii gabdhahooda isguursaday oo xitaa isqabo oo la kala reebi waayey musiiba allah ku rido waxaa ku soo haray niyahow way fududahay inaa anaga dhibaatada aan iska xakamayno waxay ku fududahay si yaroo fududaan u samayn karnaa laakiinse waxaa lagu aqoonsanayaa nin urura nin diidan qarandumisa nin qabiil horboodaya intaasaa lagu arkayaa waxaan samayn karnaa ciidamo madani oo xaafadaha muqdisho waa og tahay xilli ay hogaami kooxeedyada ay ka jireen waa joogtay waxaa samayn karo aniga xaafadda aan deganaa tuug ma soo geli jirin annagoo 5 qof ah waxaa u istaagnay masaajid si fiican ku maqlayaa waagii hore burcadda ee bilowday baawur dhacowga iyo wax dhan xaafadaha madani oo guri walba 2 kun laga qaadi jiray waan ogeyn amniga xaafadana dhalinyarada annaga ka midna sugi jirnay maanta taas meesha matal dawladda ka jirta oo ciidan qofaan aan qorigiisa sharciyeysan qofaan ciidan ahayn kama jiro meeshii dhalinyaradu walaalkeen raalli ahaw dawladda ka jirto horta habay dhihinba adoo raalli ah haddii aan beedkaaga si xorriyada u hadli karo haddii ay dawlad jirto dhibaatadan iyo tacsidan aanan dhammaanayn maba jiri lahaynba ma garatay waxaa maalin walba askara maya ma ka baxaayo macnaha laakiinse adaa soo geliyay soo maahan markhaati ayaad u ahayd leefkayga oo ku xirnayd aniga inaan degmo kamid a degmooyinka gobolka banaadir aan isku dhacnay maamulka ka jira oo aan dadka masaakiinta ka caawinayay oo dhalinyarada aan dhiirigelinayay oo uu guddoomiyahaas yiri meeshaan ma looga baahno waxaad ka haysay ka tag waxaan looga baahnayn bro adiga iga dhexgelaya maahane aniga faahfaahin anaa ku hayaba laakiin xorriyadda si aan ku hadlo macnaha firi dawladda aad sheegayso in aanan hawshaan lasoo afjarin haddii ay rabaan niman odayaalaho macawsle la yirahdo waxay u istaageen nimanka al-shabaab in iska dhiciyaan heerkii iyo guusha ay ka gaareen waa aragtay xataa garab waa la sii waay ciidamada hirshabeelle ninka horboodo oo maamulku hayo daawi iyo xoogo yaroo hubaa gaarsiiyey markuu soo laabtayna miiska waxaa u saarnaa ruqsadiisa waa la raacdiyey maxaa loo raacdiyey macnaha waxa meesha ka jira waxay tahay waxaan fila soomaaliya laga hagayaa ma ahan waxa oo macnaha dad kale ay wadaan wax al-shabaab la yidhaha ma jiraan waxaan siyaasiyiinta wado iyaga isku dhaleeceynayo mid ka soo horjeedo mid kan hadda kursiga ku haysto kan hadda kursiga haysto wuxuu farmaajo ugu soo horeeyo iyo ragga hadda siyaasadda horboodayo waxa ay ka doorbidayaan waxay tahay in 4 sano soo socod si ay u soo noqdaan inay dadka ku maquuniyaan nimankan al-shabaabka ay meel walba ay cabsi geliyaan xataa xildhibaanada waxaa bixiyaan cashuur hay-adaha cashuur bixiyaan waxaas noloshaas ma jirto
وردتك مقالة دقن ما دينا أنيق دولة دفاعين عشورنا إيقا قاديسو أنيق واتيدا يا إيدا من مدينية سميسنا يا هدي أيسو ويران أيقي الشباب تسكسي أولا دقالا يا because أنا أبني جيجا بسوقايو هذا أنيق سوقايو نما أقل سومان أنا بكيلا يا مركا هل قدلو مالت لو قدلين أمبلاس كو صدرا وأنا كو تعسينا حاولوا قبل سو تعسين جرات مو قبل سو تعسيه أنا مركا دي أن دولة إيسن إي تعسينين إن دفاعين waxaan dowladnimo ugu aqoonsado ama aan gacmaha isu dul saarto meesha ma yaalaan inaan marka dowladda jirta dadka ku waabiso gudoomiyo waa qalad dowlad meesha kama jirto dadka xaafad walba degan ha u istaagaan amnigooda iyo cayaalkooda iyo sharaftooda ha u istaagaan dowladna ma jirto waxaan tuugu waay ninka ugu weyn waa Fahad Yaasiin oo dhaqaalaha u hay nimanka marka niyo waxaas dadka laga dhaadhicin waa tuugo waxaas runta loo ololeeyo adiga markaas ka dhaafta qabiilka iyo nin jeclaysiga waxa ka dhamaanaya meesha saxda imaanayso ma garatay laakiin adeeda tiraay dowladda jirto dhinac ugu ololeyso dhinacna weydiiday xaafadda nabadeynaa in aad tiraahdo hadal isqabanayo ma ahan gudoomiye waa inaad tiraahdaa dowladda in anaga amniga sugana weydiiday amnigana way sugu weysay taas macnaheedu waxay tahay dowlad ma ahan nimanka dhibaatada waday qayb ka yihiin ayagana waa inaad saas wax u sheegtaa saas markaa wax u sheegto waxaad joogto kumanaan askariya joogto konta askariya xaafad walba ku filan aa la deji karaa ma samaynayaan tuugu waa waxaan xaalad allah ku riday waa maasantahay igana raalli ahaa intayna ku xarooday macna fikirka waa muhiim laakiin aniga qabiilkayga ma taqaanid waa maasantahay inaad sii ogaataa ficnaan leed waan kaaga mahad thank you dadku qaara waxay iimanayaan maadaama aan dowlad jacayl ay jirto inaan ku qabiilahay waana mahadsan yihiin dadka sidaas horena waan kugu sheegay inaan farmaajo qeyr ku qabiilahayn laakiin dowladnimada aan u hiilinayo dowladnimada because maxaa yeelay burburan ku dhashay ku barbaaray walaashay aan wacaya iyadana fikirka aan siinayaa maxaa magaceedii umulshiya please waxaan ka codsanayaa qof walba fikirkiisa oo muhiim laakiin aytan ma leh please and please waxaan ka codsanayaa fiidowga ii sheer garaysiin inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun muqdisho dhaxal uma helin qaraxyada muqdisho ka dhacaya dilalka dhaxal maysa u helin waay wax looga qaban lahaye xaggee bahasha qurusan tahay waa ognahay inay qurusan tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha indhoosoo ku jeeda walaashay macaanto in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waay ay action u qaadi lahayiin waay maamulka gobolka banaadir wax looga qaban lahaye waay maamulka gobolka banaadir wax looga qaban yahay abgaalaa tahay dowlad laguma sheegayo wadataa maasan tahay mukhtaar robow tankii mukhtaar robow oo mansuur inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun kulu nafsin daa'iqat lmowt amiir oo ku wacaya qadka kaa xuna umalaynayaa dadku waa kala fikran doonaan karaan laakiin mawduuca laga hadlayo ayaa ah muxuu yidhi qaraxa maanta laga fuliyey muqdisho guriga dowladda ayaa lahayd fikirkaaga oo muhiima u tahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ka codsanaa fiidowga ii sheer garaysiin waa ku wacaya maxaa kaa qaldan taleefonka waa kuu dhacayaabe mise qadkaa kaa xun mar labaadan mar saddexaadan kugu soo celiyey inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya haddaan la helin isla xisaabtan dhab ah xamdi kamerada kuma dalban waa maasan tahay kanadiid oo maasan tahay oo kusoo wacaya inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun kulu nafsin daa'iqat lmowt qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya in laysla xisaabtamo dadka qaar niyow qadkaa ka xun walaashay qadkaa ka xun kanadiid caliyaan wacnaa haddii uu qaban waayana walaashayn indhowsan ku xijinanaa bliis waxaan ka codsanaa fidowga ay sheekaysiin waa maxay sababta qaraxyada muqdisho layskula xisaabtan la'yahay waa maxay sababta qaraxyada السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا برادر السلام عليكم. dadku daawanayna aad u salaamayo. ama santa branch marja waa la socdeen yoom. haye waxaan ku soo koobayaa arrintan muqdisho horta qaraxa kama joogsanayo dhimashadana weligeed kama istaagayso intay dhowr waxyaalood ay ka jiraan meesha muqdisho
qarax walba oo ka dhaca xaafad baa laga soo abaabulaa xaafad baana lagu qarxiyaa waa isku raacsanahay sooma xaafad walba marka degmo walba muqdisho haddii aan loo samayn registration waxa la dhaho oo dadka xaafad degan aan la garanayn waxaan weligood saaxiib ma istaagayaan xaafad walba horta qof wax dadka degan horta waa in la ogaadaa zoning loo sameeyaa guri walba number loo sameeyaa qof walba deganna ID loo sameeyaa fingerprint laga qaadaa because haddii intaas aan la samayn intaasna waxay u baahan tahay lacag badan waxay u baahan tahay corruption oo mataqaana la ilaaliyo police badan oo la hire gareeyo ayay u baahan tahay intaas haddaan la samaynayna mataqaana waxaan weligeed saaxiib ma istaagayaan weligeed ma istaagaan dhimashadana weligeed ma joogsanaysa because number one waxaa ka jira meesha corruption ya ha brother meesha waxaa ka jira niyahow lacag badan ay u baahan tahay meesha in la geliyo niyahow dowladdan ma aqaan waxay mataqaana oga aamusan tahay ma strategy baysa u hayn si waxaan mataqaana looga hortegi lahaa because mataqaana xaafad walba haddaan la garanayn dadka soo degaya ama dadka ku nool IDna aysan lahayn haddii mataqaanaa hadda guriga kaa soo jira haddaada garanayn inta qof oo ku nool ama waxa gurigaas laga sameeyo waa wareer soo ma ogid as long niyo taas ay jirto xaafad walba oo muqdisho ka tirsan aan la ogeyn dadka ku nool inta baawuur meesha dadka degan ay leeyihiin weligood baraada ma istaagaysa arrintan dowladdana wala socotaa teeda kale adduunweynaha waxay isticmaalaan xayawaan isticmaalaan eeyaala isticmaalaan oo isnafgareeya mataqaana explosive stuff muqdisho hal iyo xataa ma joogo muqdisho nimanka caddaanka marka maxay baarayaan war waxay baarayaan lama yaqaaniyo nin caddaan adiga inuu wax nin caddaan horta faa'iido kuma hayo he doesn't care cunuga soomaali meesha ku dhimanayo ninka soomaaliga ayaa loo baahan yahay waxaan inuu mataqaanaa ya wuxuu baaraya lama yaqaan marka waxaa loo baahan yahay dhalinyaro badan oo soomaali in la hayrgareeyo boliis badan ay u baahan in la hayrgareeyo eeyaal in la keeno waddanka niyo mataqaana oo isneefgareynayo mataqaana explosiveka xaafad walbana waxaa waa ID loo sameeyo waa qof walba oo xaafadaas degan that's the only way aniga aaminsanahay inay baasha mataqaana ku badbaadayso ma garat adaa mudan baraad waa ka baxay thank you waana runtiis inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatun mowt waa run in dadka magaalada muqdisho la xasuuqo aan dowladdanu cidna kula xisaabtamin waa ayaan daro waxaad moodaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha meesha ay ku maqan yihiin ay dadku garan la'yiin واي اللي يسكون حسابتنا لاي أرضاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لو فكر كي وحن كديبنا يا مقدشو ضدك دقن هديسن أيكا أيسن إسحل سارين قف أمكان ملحن وإن إسحل ساران حافظ كستو سيسكون سارين maxay qabanayaan waxa isku xilsaari karaan waxa jira ciidamo la sameeyay degmo kasta haddii ciidan la siiyo oo la yiraahdo ciidankaas ha howlgalaan xaafadaha ha ka howlgalaan hana ilaaliyaan xaafad kasta qaraxa lagu soo diro waa horta marka hore shacabka iyo ciidankaas wada shaqeeyaan Soomaa yes waaba kulaya waxa hadda aan kulay in marka hore degmadii la siiyo هذا بالسين بعيدا هذان السين ما بالسين هاي هدي السين كرنا ولا السين كرايا هدي هذيك هرت وحي أور ستوال وسين كرايا سما هذيك هرت إس أبابل واجد غير مقدشو فدقة هكك عن هايس أبابلان حافظ كستان أيضا هايس أبابشو حتى أنا تماشي وحكي جيران وين تقاناي أنا مركا أنت سأولال كيف فكرة دي كتر صناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة آدم برنيسن إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت معلوم والبتعسي جوجتا معلوم والبدل جوجتا dadka dhiigooda la banaystay hantidooda la dhimaystay qaraxyadooda oo gubanay wax loo dul qaada kara haba yaraatay ma ahan waxaan leeyahay dawladdu waa inay isbedel la timaadaa waxaa wax la iska weydiin xataa oo aan waxba la iska weydiin haddii dalalkii qaraxyada waxba la iska weydiin shan jimco isku xigta qaraxi ee dabka magaalada muqdisho ka dhacay calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu halka kale saaxiib oo ku soo wacay adigoo maasan xuseen oo ku soo wacay brother adigoo maasan fikirkaaga sida gabadha u soo koobto kale okay fikirkayga haddii aan soo koobo haddii aan dad aan nahay dadka reer muqdisho haddii aan nahay
dawlad walba oo jirta waxa weeye dawladdu maxadan ah ay noo haysaa waayo mar walba lacagtana waa la qaadaa haddana qarax ana kale nagu socdaa dawladdu maxay noo qabataa haddii la isku waan canshuurta waa bixinaa oo dawladda canshuurta waa naga qaadaa canshuurta waa la bixiyaa haddana amnigeena lama sugo shacabkeena waa baabeen lagama hadlo ma fahantay maxaa loo talaa soo wacaya fikirkaaga waa diyaar oo soo wacaya si fiican absolutely ileen dawladda meesha laga taageero inta badan waa anaka ma garta ilaa gobolada kale qabiilo gacanta ku jira okay dawladda gobolka laga taageeraa gobolkii lacag waa bixiyaa waxna ma loogu qabto dhaqaalaha Soomaaliya inta badan meesha ku badan magaalada Muqdisho waa dawladda meesha u badan tahay xagga waay haddana waxbana lama qabto dawladdu fikirkaaga kumanaan qofood ku dhageysanayo saraakiil kamid ah gudoomiyaal degmooyin kamid ah oo aan anigu mucaaradanahay adigoo maacsan fikirkaaga dawladdu sida qaraxyada u hortay okay si ku meel gaara in madaxtooyada ee meesha nooga rarto meel kala geysato si calisan qarax nooga yaraado waa maacsan ila madaxtooyada qarax nooga weesay thank you fikir aad u fiican waa maacsan thank you waa maacsan tahay dadku saas la rabaa fikirkooda inuu soo koobo Hussein aan waxya isagana qof walba inuu fikirkiisa soo koobo ninkaas wuxuu yiri gabi ahaanba madaxtooyada in la ka raro meel kale la geeyo si qaraxyada nooga ekaadaan because qaraxyada waxa waa laga qaban yahay canshuurteeni iyo hantideeniina waa dhiibnaa hantideeniina waa la gubaya waa maadsan tahay fikir aad u fiican thank you Hussein ay anoo dad kale kaa soo hormariyay laba qofood kale kaa horreeyeen fikirkaaga adoo soo koobi hello kuma maqlo cod ma jiro codka iska celinaya cod ma jiro ninkaas ininka waa maqlisiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsin da'iqatul maut anas oo ku salaam walaalkay macaani qof walba fikirkiisa isoo soo koobiyo please السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته براج ولا سعد ها سفي عن بقول السعودي marka sida laga hortagi karaa yani dhibaatooyinka maalin bas socda ee qaraxyada islaam la'aanta jirta ma aniga waxaan ku soo kordhsadaa soo koobo haddii horta dawladdu ay magaranaysaa diyaar u tahay arrinkan wax waa laga qaban karayaa waxa weeye sidee diyaar ugu noqonay in waxa weeye loo macnaha sidaad og tahay muqdisho waxay ka kooban tahay 18 degmo in maaragtay ani waxaan ku sameeyay degmo walba in sida tusaalahan degmo walba laga dhigo magaalo tusaalahan kamid ah sida garowo kale ay u tahay magaalo in wax walba loogu dhameystiro ali cabdi kuma maqlo waan ku soo celinaa ma soo celin degmo walba ku soo celin degmo walba tusaalahan daynilo kale in laga dhigo hal magaalo oo guriga oo sida garowo camal ah oo sida maaragtay wax walba loo yeelo iyadoo ay ku saabsan tahay xaafadaha yaaqshidoo kale waa micnaha midaan ka hadlaynay adigoo maasan waxaan idhahdii gudoomiyaha degmada iyo taliyaha qabo sugidda degmada haddii lagula xisaabtamo dilka degmada iyo qaraxyada baabuurta garaashada lagu xareynayo sax amniga iyo qaraxyada waa yaraanayaan waa midaan sheeganay soomaa waa midda labaad oo sheegay waxa weeye ID kaaro in ay muwaadiniinta loo sameeyo oo soo galaya magaalada su'aalahan qofkii banki sameeysanay qofkii hotel galay male qof walba iska yaacdo weeye magaaladu thank you ama santa fikirkaas haysaa mid kale oo aan ku dar rabo waxa weeye in loo sameeyo ciidamada dar cad loo sameeyo magaalada oo sardoon ah si maaragtay ay u sheegaan qof hadii wax maaragtay arkaan dar cad waxbay qaban kartaa ma garanaysaa ama santa si fiican absolutely iyo guryaha registration lagu sameeyo guri walba in uu booliska soo registereeyo thank you ama santa aad u fiican wuxuu yiri waa fikir aad u fiican wuxuu yiri gudoomiyaasha degmooyinka lala xisaabtamo waa sidaan sheeganay shacabka degmada degan oo la tirkoobo guryaha oo la tirkoobo hello ama santa fikir aad u fiican waay maxamed cabdaayi صاحب ممكن جرى برنامج علي يعقوب ها برنامج ku jirtaa brad adigoo maasan toos ugu jirtaa نيو wadankan Soomaaliya oo musiibo ku dhacday ma garatay absolutely ilaahay naga dul qaaday tiiba Muqdisho marka gumay diid oo soo wacay adigoo maasan cali iyo ka horeeya ku soo celiya qoraalkiina qofkaan arkaan soo qabanaya waa maasantiin videoga noo share garay
marka ani waxa isleeyahay hadday daacad ka tahay mid ciidan iyo dowlad mid hadda ani iga muuqato inay daacad ka tahay ma jiro dowladda hadda dhalatay nabadii nolol markii kow doorashada dhacday markii halkii sano ugu horeysay bilihii ugu horeysay xoogaan iyo dadaal wadeen ma garatay wixii ka dambeeyay dadaalkii ma la arkay ma garatay xamar midowga maxaakiinta 2007 hal bila amnigeeda lagu sugay ma garatay waa la wada joogay oo qof walba hal doolar wadada ugu dhacdo war halkan doolar ka dhacday qaadaan lahay qof qaadanaya ma jiro ma garatay haddeertaanoo marka ciidamadii Amazon ciidamo Ethiopian ciidamo Soomaaliya ciidamo Mareykan ciidamo Japan ciidamo nooc walba joogaan oo wadada noo tababaraan oo carabtii nooc walba sababta amniga xamar loo suglayahay su'aal in la isweydiiyo mudan waa ma garatay si fiican marka wallahi ani waxaan isirino marka arrintan barnaamij waxaa jira mugta adduunka waxaa jira waxa lacag dhii lagu kala cuno ma garatay lacag lagu kala cunaa jira ma garatay si fiican haddii maga amni darrada lacag in lagu kala cuno ee gashanayo dhibkeeda la naf dhan la goonayo haday gasho in siyaasadii ama barnaamij galo oo lacag lagu kala nin walba dantiisa u fiirsado meeshaas dhibkeeda leedahay ma garatay waa xaalad ugu dambeysay in xaalad la badbaadiyo maxaa yeelay hadii qof inuu dhinto qof kale taajir ku noqonayo qof inuu dhinto qof kale xil ku helayo qof inuu dhinto bangi oo lacagtiisa hooseeyo ku siyaadayso haday gasho ciidamada meeshan joogan Amazon inuu qarax dhacay meesha u joogaan ma garatay si fiican faa'iidada ay u jirto meesha waxay tahay qarax haduusan magaalada ka dhicin muddo hal sana waa mahadsantiin inta meeshan soo joogteen waa mahadsantiin waxa noo soo qabateen waa isku filanahay naga baxa imaanaysa ma garatay hal fikrad hadan kugu daro ciidamadan mar walba qarax markuu dhaco imaanay dhacadka waxna ma soo kordhiyaan maxay baarayaan isla wallahi niyo ciidamadan u jeedid waxyaalahan ee baarayaan niyo kow ayaga amnigooda dadkan ay wadankooda suganayaan ee Soomaaliya amnigiisa ma suganayaan dhacadkan wuxuu baaraya waxay tahay ninkan dhiigiisa inuu wadan Yurubta kamid ah mar soo galay ma garatay si fiican dana ayaga u gooni waa maxaa yeelay markay imaadaan dadkan ciidamadeena way yara xishmeenayaan oo ayaga loo xiraaya oo 20 qof ku dhimato asaa barnaamijkan fushanaya maaha waxa ku baarayaan qofka inuu ku jiro raggii argixisada ay raadsanayeen maalintii ka arkeen inuu ku jiro way ka saarayaan listigaas uu ku jiro ninkaas maxaa yeelay ninkan uu dhintay way xaqiiqsadeen oo bilaa tawfiiq ma garatay hadduu ku jiro waayana waxay leeyihiin ninkan ma banaqaan anaga waa baarnay waxaan ka helnay ma garatay ayaga amniga suganaya maaha niyo dad xamar iyo Soomaali amnigeeda ma sugayaan ma garatay waa fahmi absolutely waxay leeyihiin ninkan haduuba Yurub ka yimid si ogaadaan hay'ad badan dadka meelaha fikrada lagu shubo dad meelaha ka tagay ma garatay Yurubtan ka tagay marka ay way baaraan waxay baaraan dhiiga marka qofku uu wada haya ma garatay hal computer ku wada jiraan system ugu jiraan si hadhow qofkaas haduu noqdo qof oo Yurub ka yimid raadkiisa eeladiisa carruurtiisa loo waa kaas si gadaal dam ay u raacdaan laakiin wax ayaga marka hadda gooni ayaga adi ku wadaan ku badbaadinayaan system ma jiro ayaga naftirkooda dadka hadii aqli Soomaalida leeyahay dad xisaabtama siiba dadka Muqdisho oo sida dhanba dhibaatada meesha ka dhacaysa dadka in la hadlaa mid kale aan kugu daro dawladdu ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qaraxyada magaalada Muqdisho kamana hadlaan inana ma xilka ma uga qaadan niyo system kaano qofka markuu ban adiga damaanta yaaniga banaanka ka joognaa systemka siyaasadda niyo waxyaalaha adiga ku muuqdo ninka markuu siyaasadda galo ma u muuqanayo ma garatay waa gartay meel kale u muuqanayo siyaasadda niyo baashan waa iska dhib badan tahay xaaladeeda waa bahal dhibkeeda iska leh waxa kaliya baashan ka badbaadi karo niyo sida madaxweynaha fiiri haddaan ka dhex galo xasan sheekh oo nimankan ka hanweynaa ama ka siyaasad foga wax badan magaalada Muqdisho maxkamadihii wax badan joogay aad ogeyd qaraxyada marka ay dhacaan oo kuwa lamida ay sadhici jirin wax la xisaabta ma imaan jiro taliyaashu waa bedeli jiray wasiirka arrimaha gudaha kale wasiirka amniga kale wana ka hanweynaayo kursigan sidoo ugu fadhiistay ayuu rabay inuu waligiis ugu sii fadhiyo niyo hota waa sax laakiin hota waxa meesha taagan waxay tahay wasiirka markii la bedelayo hota waxa fiican systemka uu meesha ku imaado in la isweydiyo wasiirada hadda dawladda magacaaban waa qayb qeyr uu keensaday iyo qayb uu farmaajo keensaday iyo qayb xildhibaano baarlamaan kamid lagu qanciyay keenso yaa ku magacaaba uu meesha ku imaado ma garatay
سيف يعني سيدا قدوم ياش دقموين sida كوكا guddoomiyaha degan maxaa yeelay nin maanta hadda marka farmaajo meesha u joogo hadduu kheyre xilka ka qaado waxaa imaanaya labadan inay isku dhacaan ma garatay nin walba marka ninkiisu meesha ku waardiyeysana ma garatay marka waxa waaye haddii uu kheyro uusan oo hebel wasiirka arrimaha gudaha oo kale xilka ka xilka ka qaad qaad waxa waaye madaxweynaha khilaaf soo kala dhex madaxweynaha galaa khilaaf soo madaxweynaha kala hadduu waa yidhaahdo kisti hadda waa wasiirka amniga adiga kaama dhexgala hadda waa ogeed kisti yartaa oo nisa ee qalqashay nisa bedelkiisba bedela waa ogeed khilaafka soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma garatay nin oo ra'iisul wasaaraha u tagaa madaxweynaha xil ka qaaday ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha shoogaa dhacay markii dambe waa la xaliyey ma garatay waxaa waa ninka ani meesha keensaday meesha marka nin program waa lagu kala shaqeysanayo marka waxa ganacsi waa ganacsi waa leedahay ganacsi mise waa saaxiib waa haa aniga adiga hadda waa isbaranay صح qofkii ugu horreeyey oo markaan xil qabtay ii yimid aa tahay oo aqoonna aan saas u lahayn oo haddana kusii bartay oo ninkii sheekaysan jiray oo barnaamijkii la qayb qaadan jiray sidaasaa xilka laisku siiyaa sida Soomaaliya xilka la isku siiyaa sidaas qaraabanimo iyo waxaa la isku siiyaa qaraabanimo iyo qabiilnimo ayadoo meesha ku jirta waxaa jirta warniyo ninkaan biri muxuu ii qaban karaa 4 sano soo socoto ninkaan muxuu ii tari karaa oo siyaasadda laakiin niman aan xisbi ahayn waay hadda oo aan xisbi ku wada jirin laakiin madaxweynaha xasan sheekh aan kaa dhex galay madaxweynaha xasan sheekh odowaa iyo cabdikariin guuleed aan kuusoo qabto labadaba xibsiga damba jadiid ayaa labadaba xilalka uu ka qaaday maxaa is leedahay oo ay xataa isku xisbi ahayeen oo isku ahaayeen kambaniyo saasay tahay cabdikariin guuleyd teleefon intuu kula xiriiray iyo maalin cad yiri xilkii amniga gobolka banaadir niyow dowladdii xasan sheekh kaama dhex gaada ku watay dowladdii xasan sheekh iyo dowladda hadda jirta nin mina waxaan xeejinaa mina mi faasana adiga maadaama ninna waa nin aan saaxiibtinimo isku keenay horta labadan dowladood horta laba system ay ku kala duwan yihiin ma garat waxay ku kala duwan yihiin dowladdii xasan sheekh waxay xoogaa yar dhageysanaysay xaaladda shacabka qiimeynaysa ma garat shacabka muqdisho qiimeynaysay waxay aragtay xasan sheekh wuxuu qiimeynaya in ninkan guuleed la nacay oo shacabkii nacay uu amniga wax ka qawaay ma garat dowladdan wax qiimeyn ah ee wada ma jirto haddaa dowladda kasoo horjeesatid nabad iyo nololaa diiday barnaamij gooniyaa tahay mucaaradaa tahay fikrad gooniyaa wadataa dowladnimo soomaaliya inay u dhalata ma rabto aa lagugu shaabadeynaa ma garat maya taas waa annaga kiisa oo dad ka soo horjeeda waay laakiin dadka xilka haya wasiirka arrimaha gudaha fiiri wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga iyo yiriisu macnaha wax maanta la taaban kara ay qabteen male waa nagu beel annagay nagu beel yihiin gobolka banaadir kasoo wada jeednaa macnaha wax ay qabteen male miyaysan lahayn kuwa sidoodoo kalaa oo wax qabanay oo saaxiibo la hadlo inay ra'iisul wasaare waa arkaysa niyo taabid ninkii la dhahay wax qabadsidiisa muujiyey la arkay wuxuu tare la arkay marka haddii dadkan dad inay wax qabtaan loo baahan yahay ninkaas xilka lagama qaadin ma garat inkastoo arrimo siyaasadeed ee dantii dowladda iska waayeen meeshaan marka meeshaan ninkii dantiisa niyo ninkan kale adiga saaxiibkii hadda dantaada ii wada ani danteyda xaaladeeda aan ku arko inaad ku jirtid waa heshiinaynaa soomaali kale wax naga gala male baashaan lacagaa lagu kala cunayaa ma fahantay soomaalina marka intaas ay fahmayso intii ay fahmayso marka hadda maxaa leedahay lama bedelayo maba la bedelayo maxaa ay ka gal ninkaan dhimanayo farmaajinayo ilmihiisa xamar ma joogo runta as weydiinanayo waa maya kheyre ilmihiisa xamar ma jooga waa maya yiriisu ilmihiisa london ay joogaan ma garatay maanta waxa aan dhimanayo waxay tahay niyo waa hooyo soomaaliyeed waa cunug oo lagu koriyo hooyadan cunugan waxay ku korisay xaaladiis ilaah yaanya u gadaysay malaay u gadaysay suuqaas mid kale aan kaa dhex galo annagoo hadda dowladda nabadii nolol taageersan oo dowladnimo ku taageerana oo qabiil ku taageerayn oo inay wax qabata aan ku taageerano ma isleedahay guddoomiyaashii yiriiso ka horreeyey iyo wasiiradii ka horreeyey amniga way ka fiicnaayeen qaraxyada noocyadan ma jiri jirin maxaa soo kordhiyey markii maalin ka dambaysa dowladnimada sii fiicnaanayso qaraxyadan inay sii bataan niyahow boqolkiiba boqol horta yiriiso niyahow wax uu hadda gobolka banaadir u qabta ma jirto midda kale mid yaraa su-aal inaan ku weydiinaa wadda hadda haalbooliya oo xamar oo toos u fura ma jirto isweydi adiga maskaxdaada wadda walba waa la jaray dhagaxa la dhigay biraa laga taagay maho ayadoo biro laga taagay oo dhagax la jaray sababta diyaarad baabuurtii xamar keliya miyo diyaaradaha wadamadan aad joogna baabuurtooda diyaarad ma noqon baabuurta xamar diyaarad may noqdeen marka waxaa leedahay dadkan wadooyinkii waa laga xiray nalalkii waa xirmeen wadooyin kale waa sii xirmeen hooyadii waa la dilayaa wiilka bajaajlaha waa la dilayaa
qaraxyada waa lagu badinayaa marka sababta dadkii aniga magaalada muqdisho waa soo batay cid wax iska ma weydiinaysa jiro cid wax iska weydiinaysa ma jirto maxaa cid u baahan ma jirto dadkan haddii dareemayaan dhiig u leeyihiin ma garata waxaa fiican sidii dham in baas aad kula dareemayso maalin ilaahay kan haddeertaan shalay waxaa laga hadlaya waa arkaysay shirka waxaa dhacay amniga inaa la socotiin kala magal madaxweynaha joogay ra'iisul wasaaraha joogay wiigan dhexdiisu ahaa ma garatay maxay ka hadleen marka waxaa laga hadlayay in qaraxyadan dhacay iyo systemka laga hadlayay waxa meesha fadhiyay kaliya kaamirooyinaa la keenay waa la sawiray war suuq qarax u dhac cid la isweydiiyey male waxaa fadhiyeen ciidamada dadkii ugu sarsareysaa fadhiyeen ninka militariga mid kale haddaan kugu daro madaxweynaha wuxuu iskugu yeeray afarkan saraakiil ee u sareysa ciidamada hod qaraxii saxafi oo ku dhintay allah u naxariisto wiilkii ina shaaweeye oo aabihiisna ka horreeyay wuxuu yidhi caddeemaha u baahanahay qaraxyo kalena waa ka dambeeyeen maxaa is leedahay ma waxay ahaayeen oo dadka in la ismaqashiiyo oo sidaas dadka ay ku ilmaamaan mise wax dhabay ka ahayd والله هتنيهو حقيقة هذه الربع هذه السيدة لما بوحكو شيء هذا ربت إنه جوري هذا حاصلات هاي عرورة على هاي حاس كذا عرورت هذه خلاف سكوي ماذا أما بربلام جوري كيالو هذا حقيقة كتا إنه بربلام كاس حلسيت نرجع إلى كهذا جاي كوما كهذا ناس هل ساعة هل دقيقة مقرط دولدان ودن كان صومالي أيضا قعدت كويسة مقرط هذه حقيقة كربته إني أمنية صوماليا أما أمنية مقدشو هذه طبعا سديدك ما مقرت أنا وحاجة كامل حق وكل يرى وكبحة حمر وحاجة وجي طبعا يتضبط أصدقمو أو مدني أنا كسو قارت مكان مدني يا إلى لجنة مدني جالس وحال العكس يجري أضياس حافظة العكس يجري ومدني guryaha awgeed waa soo كل طبعا بيلا إلى دقمو والبا حافظ والبا وحاجة وجي شن عنيقة جوكت مقرت markaas waxa la soo qabanayay tuug jiingad fujisanaayo tuug isku dayo inuu gabar meel ku dilo tuug inuu isku dawlad dakhli lama siineen dhaqaale lama siineen hadii la tiro koobo wiilashaas 18 degmo joogeen oo madaniga oo xaafad walba sameystay meesa gaareen 10,000 oo wiil meesa gaareen ma garad ma santahay thank you oo fikrad u fiican marka niyo meeshan anaga waxa kaliya ku kabi karaa dadka qurbaha joogaanahay siyaasadan way balaaratay xaaladeeda way isbedeshay way si dhinac noqotay kaliya waxa ku kooban ma garat insha Allah thank you waa ma santahay Hussein maantoonan iyo waxay dhahay ninkii Anas oo Hussein aan kugu xijinaya Hussein ka horeeyay waa ma santahay Hussein waxaan leeyahay inuu soo koobo waxaan isweydiinaynaa السلام عليكم. Hussein عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوري واسمع الوينين عادي هذا ما أصلا سوكوبي وقتي ونهاي إن هذا القاعد وأنا وسوكوبيا وحنكون سوكوبيا ماشي اللي يراهدون مقدوش حطوا مدح الصومالية سيفي عن أنا كاميرا الكومة البنا قميص أنا كاميرا الكومة البنا سيفي عن ما دمالي برادر صوماليا وحوي ومقدوش ومدح الصومالية ومسكح الصومالية وانا لا دغالمايا لكن مهمته maxay tahay hadii waxa laga yaabaa inteena inay qurbo ku wada noolnahay qurbahana waxa weeye shacabka hadba sida ay iyagu u ilaashadaan dhulkooda ama qofka ula socdaan markaa meesha maraya maxaafada la degaa si ula socdaan amnigooda ku xiriir Soomaha si ula socdaan bay falanka qabtaan marka inagu maxaan u baahanahay Muqdisho waa maskaxda Soomaaliya inagoo kaashanayna ciidankeena iyo hadii la koron yahay Anas okay waa kugu xijin amnigi inagoo kaashanayna ba waxa muhiimada inaynu hal meel u wada jeesano anu waxaan qabaa xoogaa dhibaatada ugu weyn waxa weeye dad baa jira gaar ah oo aynan ilaa hadda aan la garanayn ee Soomaaliya oo inala dhashay oo jooga wadanka oo Soomaaliya dambiye ka soo galay oo aan rabin Soomaaliya hore u socoto hadii hore u socon lahayd in la soo qabanayo tirka la soo istaajinayo ogyahay marka kuwaasa marwaba ka dambeeya ee dadka horinaya aniga waa sayla taa fikirkeyga absolutely fikirkaaga waa absolutely marka sida dadkaas dawladdaas ay hore ugu sii mareen ee magaalada madaxda Soomaaliya ay soo noqon magaalo madax awood iyo xoog iyo maskax iyo maamus leh ay soo noqon bay waxay rabaan inay hor istaagaan mar walbaba qarax dil dhac waxa doonaan bay sameynayaan marka muhiimadeena waxa weeye Soomaalida oo dhan khaasatan Muqdisho magaalada madaxda Soomaaliya waxa muhiimadeedu tahay shacabka iyo ciidamada iyo dawladdu inay hal mowqif iyo hal maskax noqdaan
oo aan lagu hadlayn hal qof ah haddaan ku hadlayo booliiskii anigiina aan idhaahdo boolis baa ilaalin cidina ima ilaalinayso moogtahay waddanka aan joogno hal nin oo gaari wato wadada حسين وان كان دحقلو لكن حسين وان كان دحقلو مدحوينه عبد الله محمد فرماجو شعبك مقالة مقدشة وهيليي doorashadii iyadoo socoto loo banaan baxay hoolkii xoog lagu galay dadku iyo madaxweynaha xataa isweydiiyey doorashada inuu ku cad yahay madaxweynihii sidaas uga haray iyadoo uu cod kala sii wadi karo ka tanaasulay shacabkii siday u soo dhoweeyeen madaxtooyada albaabkeeda loomanaa ilaa suuqa xoolaha banaanbaxa ka socday dowladdii waa fadhiisatay way shaqayday madaxweynihii mooshinaa laga keenay shacabku waa u hiiliyeen maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu shacabka ugu hiilin la iyo haddaan su-aal ku weydiiyo inaad erga caliya waa sax horta waa inuu horta ka soo baxaa muudka oo dadkii la hadlaa oo qalbigooda galaa oo u sheegaa exactly dhibaatada meesha ka jira waa inuu u sheegaa soo maaha markii madaxdaadu hadasho oo daawo dhibtaasa kugu socota ka joog aynu ka joogsanno oo aynu hal weji iyo hal mowqif noqono mogta waa horumar iyo dhima hogaankaagii hore usii dhaqaaqaaya laakiin markaan muudka galo oo godkii galo aan hadlin brother waxaa imaanaya macnaha shacabkii cuqdad baa gelaysa soo maaha marka bishaar oo ku jeeda calaykum salaam marka dhibaatadana haysta brother waxa weeye madaxdeenu waxay ku jiraan mood ma hadasho shacabkiina dhegeysi inay dhegeystaan weeye oo ay dhahayaan warheed maxaa loo hadli waayeen maalinba qarax baan haysto maalinba dal baa la dilayaa meeshan waa magaalo madaxii soomaaliya xuseen mid kale haddaan ku sii weydiiyo baabuur qarax ka buuxaan oo sida soo galay soobo kale gaariga lama xalkamayn karo laakiin meel 3 checkpointi baabuurta laga baarayo oo bajaajta aan loo ogolan gabi ahaanteed bajaaj ma loo ogola inay meeshaas gaarto xarunta gobolka banaadir ayaa ku dhegan meesha oo qarax ka dhacay 3 checkpointi ayaa la marayaa ciidan bir ku xirtay ciidan kaloo baaraya bir ku xiran intaasba baabuurka la baarin meesha suma gudbo ma waxaad leedahay ama is leedahay gaarigaas waa iska gudbayo shacabka lagu eedeyn karaa mise mas-uuliyad qaada fududayntaas in la helo miyaysan ahayn waa run waa sax kelmaddaas waa sax waxaa jira dad fududaynaya laakiin waa wax la heli karo soo maha brother waa si tartiibaa loo heli karaa qofka fududaynaya fiiri sideedaba dibta waxay ka timaadaa hal meela 10 meelood kama timaado aniga askarigan maanta ii taagan isbaarada taagan oo ilaalinaya dadkii cadowga ka ilaaliya baabuurta soo maraysa wadada soo maraysa uusan ilaalinayna controlayn hadhowna dadka ku qarxaysa wada loo raaco leedahay ma ogtahay laakiin hal mar haddii arrinta intay kugu dhacdo aan birina kugu dhacdo saad mar kugu dhacdo maxaa meesha imaanaysa in noqoto fawda meeshii marka in marka ugu horeysa arrintaadu dhacday in laga hortagay ahayd soo maahayn hadda hadday dhacday laakiin de waxaynu fawday noqonaysaa ma ogtahay magaalo madaxdii waxa way noqonaysaa meel faraha ka baxdo kale marka hadda iyo kow wixii hore tage laakiin hadda iyo kow hala tuso dadka hala yiraahdo dhibta halkaas ka timi ilaa naftu mar bay dhimanaysaa meela qabtaa su'aal kale haddaan ku weydiiyo oo ugu dambaysa horta maxaa kusoo gabagabaynaysaa intaan su'aal ugu dambaysa ina adeer gacdi waxaan kusoo gabagabeynayaa dadku shacabku ha la shaqeeyeen booliska dhib kasta ha qabeen I know waa dhimanaya qofku maxaana kullu nafsin daaqitul mawt allah u naxariisto wixii dhintay inta dhaawacna allah u boogadhayo dadku waa dhimanaya 24 hours sheegaya qarax baan noloshay laakiin aan waxaan ku gabagabayn lahaa walaalow gacaliyo dadka shacabka masaakiinta meesha ku dhibaataysan horta iyagu horta hooriyada iska rogeen wareer dhibtaana haysta walow xataa mudaharaad ba ha sameeyeen laakiin kow dowladda Soomaaliya madaxda Soomaaliya wadad baad hogaaminaysaan masaakiina wadadka ha ku cayaarin haddayna waxba qabaneen walaalayaal isaga taga meesha war waxba qaban karo dhaxaya laakiin haddaa wax qaban ka dhaaneen walaalayaal wixina tusa inta kaliya kusoo gabagabeynay walaal waa mahadsantahay boqolkiiba assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت قفل بوا ديمنا لكن محاربة فرين إني ماشي إنك قدروا وعاودن علم صناعي وصل عادي مقالة نيروبي قرح يا كدعي وين رجع فليي باور يعيدا وحل أوجادي أبيس يهويديس إني مقالة نيروبي أي جوجان وحل أوجادي أبيس يهويديس inay magaalada Nairobi joogaan anas kamerada kuma dalbana adigoo maasan maaqa wax ku haysta kanu bri ani kamerada ku diidaysa
waa la soo xiray shacabkii nairobi oo dhan iyo caalamkii waxay ogaadeen ninkii qaraxa fuliyey aabihiis iyo hooyadiis waa xiran yihiin hadda raad ayaa la helay waqtiga u baxay ayaa la helay meesha u aaday ayaa la helay raad ayaa la helay laakiin magaalada muqdisho laysma weydiiyo qaraxyadeeda waxa fuliyana ciidamada kenya jooga waay ciidamo cadaan uma marana u baahan السلام عليكم أبوي calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo waxaa rabay inaan ra'yigayga ku darsado sheekada muqdisho ka jirta ma fahanta ay soo dhiiba adigoo mahadsan weliga yaalahaaga waxaa maqli jiray nin baadidii kula dayday kula af soomaaliga maayada maxamed ma aqaanay qof oo baadida kula raadinaayo oona helayn weligaa maqashaaday si fiican aadna kaa badan hanna waxaan ku hanna ma ahana waxaa reality ku maqla waxaa la dhahay markii tomorrow ee gaarto cod iyo ninkiisa waxaa noola dhammaynayaa sidii cod iyo ninkiisa markii la gaaro dad yar ah u noqono ma fahantay oo dadkeena u noqono dadka la yar oo la yasa u noqono second way caddahay dadka muqdisho u haayo sheekada ma aha dad muqdisho kasoo jeedo dad muqdisho ku dhashana ma aha marka maadaama dadka ay muqdisho kasoo jeedin waxa noogula qasbaayo oo noogula dilqinayo oo anagana aan u tutugsananaa garan lahay mideeda labaadna walaalo dadka dadow keliya yaa fiirin dad kale cadow way nagu yihiin way caddahay laakiin annaga isla hawiyaheeni bal fiiri waa ishorboodonaa ma isla tashanayno annaga yaa cadow isku ah annaga yaa isku ah mucaarad ma fahantay had intaan annaga saas iskugu jeednana weligeena horumar ma gaarayno ma fahantay meesha aan fadhinayna halhalaan noola dhameena markii tomorrow hal iyo cod gaartana 5 qof kuu codaynayso ma fahantay haddaa hawiye tahay amaasan tahay oo fikir aad u fiican waxay tiri ana soo saaxiib kaamirada kumad way ku diidan tahay wax ka qaldan ma aqaano ay marka labadan ku cilnaa oo ku diiday wallahi kaamirada waa okay Ismaaciil okay ma brother screenshot inaan ka qaado ma rabtaa brother beenan ku sheegay ku soo wacay anas waa kaas wallahi kuma ogolo oo billahi tallahi okay maya wali okay ma kaamirada ku diidaysaa anas ma wax ka qaldan kaamirada ku diidaysaa haday soo qaba ayuu yiri hadana fiiriya farxiyaan soo qabanaya farxiyada ka hooseedaan soo qabanaya qoraalka dib u fiiri adigoo maasan fiiri aywa aad toos u aad anas kaamirada ka qaldan tahay anas ibrahim malik saaxiibkay aan rabi caaw fikirkiisa inuu dhiibto oo ka xumay farxiyo oo ka hooseedo kaamirada u dalbay laakiin ma qaano anas soo hello farxiyaay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برامج كمان سعودة هذه قوم ماسن ولا سفيعا هي لبي هلا عدو سوق بي هذا ماسن ضد كلام كاوري ولي الله دانا سوق وانا سينا جانس ولا aniga waxaan dhihi lahay hadii aan nahay horta Soomaali Maxamed oo dhan aniga ima kala sokayso wada jeclahay awalan Soomaali horta qalbiyadeeda Allah barcad isku mariyo maxamed qaran kaamirada kuma dalban waa si fiican bay waa arin fiican ilaahay isku soo dhaweeyaan iscafiyaan marka labaad markii wax la kala qaado oo dhibaatada laga hadlo dadka qabiil u bedelaan aniga qabiil yani uma wada sidaan u hadlaay laakiin aragtideeda waxaan ka hadlaa dadka reer Muqdisho dhibaatada haysato si fiican ani waxaan leeyahay hadda Soomaali goboleedka ka jiro Puntland Hirshabeelle Jubbaland galmudug waa badan yihiin waan qanaa si fiican maamul goboleedka ka jiro si fiican fiiriya gobol walba canshuurtiisa iyo maxay tud nabadooda iyo waxay ku soo dabaalaan ilaahay u siyaadiyo barwaaqo iyo caafimaad يعني نبض يكسو كعن كسو سحلان كودا سفيعا قبل كبنادر وماشى فيكتم كستو أو قبل هذا سجوجا بنادر وإمارة أو كو بنوني جسوا سوقتها سفيعا قف والبوح ولا ومقال ماذا حدي وعاصمة داني ولا بابي إرايا سفيعا ذكر مقدشو يعني هدي سن إسكا قبل أنا الدولة الصوماليات أو فدرال ذنوج مجرد حقيقة هدي أنا هالشعب كريم مقدسو سفيعا dan waxay noogu jirtaa anaga inaan ogaano keen naga dhimanayo qarixi hadda waa la qabsanay wallahi dad dhamaanayo yani yaa qarix ma dhacay ha caadi yani waxay noo dhaqatay wax caadi ah qaraxa dhacay dadkii waa duugaya ilaa maanta dhan ibriid heladoodii kaliya aanay meesha waa la xaqaya hore laga dhisaya
ها الله يرحم رحمينا للي هاي ولا في دقائق انت عادي ريستا وحال baraha موجينا يا bulshada qof قيرو walba saaxiibkiis Facebook dhiga inaa ها lilahay inaa halkaas ها loo gudbay waxaan anaga naqaana Soomaali hadana waxaan barana wali wilaayada Muqdisho hadal yar يعني qiiro yar oo kooban oo laga sii dhaqaaqa oo micno lahayn oo la sii daba kiceynin waa muujinayna laba maalmood waan kaga dhaqaaqeena wixii waana la bartay oo waxaan noqonaa doqon dibirka ma daasho si fiican marka ani waxaan dhihi lahaa reer Muqdisho haddii aan nahay Soomaali qof u tali karta ma way laha u jeedaan waa ummad wada siyaasi ah saqiir iyo si kabiirkoodaba fiican dadkana inay si kala fiican aqli sareeyaan ay ishagi karaan iyagu lagu wada socon karaa xataa ninkii naagta isqabo يعني ummadaan absolutely toodna maxaad u sheegi kartaa bal Soomaali weyn oo qof walba siyaasi hadda naagti iyo gabadhi meeshan joogto siyaasadu ka hadlaysa dadki inay yani wax iska maqlaayaan ee kala heer sareeyaan ee isugu tali karaan annaga Soomaaliyo maxamed oo gobolay sameystay oo mid kasta annaga nagu taagan uma talin karno xaqiiqatan dawladna uma matali si karno fiican waxaan taaganahay reer Muqdisho haddii aan nahay banaadirland aan baxsano Soomaali weyn oo dhan maamul goboleed ayadoo la miiskooda hadalka isugu imaano madaxweyne sare aan sameysano laakiin banaadir waa yani dalkii hooyo ummadda Soomaaliyeed waan ku dhamaan xaqiiqatan wallahi dan noogu jirtana ma lahan faktam kastana waa waa noo aragnay imaanaya dhibaato anigoo na inay nagu qarxinaya dhacday waa maasan tahay dhibaato way nagu dhacdo waa aragnay waa loo wada sax jeedaa waana sax waxaa la dilayaa gabdhaheenii dhallinyaradeenii haa hantideenii la baabi'inayaa sax dadkeeniya maalin walba 20 aan ka yarayn dhimashada qaraxyada waa runta nacam waa sax sax laakiin sidee looga hortagi karaa isleeda waxaa loo hadda fiiri haddii aan shacabka dhahno anaga magaalada goboleed muqdisho haddii aan dhahno walaalo annaga goboleedaan haddaan samaysanayna haddii aan dhahno xataa amisom way naga tegaysaa oo shabaab wuuna daynaya ma fahanti dhibaatada dhan way marka yaraanaysaa waxaan leedahay haddaan puntland oo kale noqono iyo nacam galmudug oo kale iyo haa hirshabelle oo kale haa annakaa ismaamulano qof walba lala xisaabtamaya maya anaga markaan goboleed anagana noqono ee Soomaali nin walbaba gurigiisa soo xaaqdo oo nin walbaba meeshiisa u taliya si uu nadiifsado Soomaali oo dhan miiskooda hadalka iskugu imaanaysa hal madaxweyne hal baasboor hal sida dabayo kala federaal aan samaysan laakiin dadkan reer Muqdisho dhamaanayo oo canshuurtooda lagu dilaayo oo hantidooda lagu gubaayo dan nooguma jirto waan baaba'nay waa nagula dhamaysada noogula silsilayo Soomaali koonfur waxaa waaye banaadir hooyada ummadda Soomaaliyeed waa ku baaba'nay waa ku dhamaanay marka fikirkaaga waxaa qabtaa inaa maamul gobolka banaadir loo dhiso maamul aniga dhisanayna yani Soomaali yani federaal madaxweyne ummadda Soomaaliyeed waa mid dadku way baaba'een boo qabriga ma loo talina waayahay wallahi waa la dhamaaday taasaa beenayn haddana waxaad ogaataa maxaa dadka kusoo qaraxa wado gabagabaynaysaa ma ahan dadka ummadda dadka reer banaadir ma ahan waa dad meelaha noogu wada imaaday waa dad ayaga gurigooda nabad yahay waa dad ilmahooda nabad kusoo kacoyo oo dadka noo dhow oo dariskeena oo Soomaali nala ah oo goboleedka ah waa waxa fidnada ka wada banaadir ay ka degi laadahay waa maasan fikirkaaga waa sidaas waa maasantaha bahay tanki waa kaaga mahad celinaa farxiib tanki waa horteeda waa gabar Soomaaliyeed anas haddana ku celinayaa anas hadduu kusoo gelaya hadduu ilaah yidhaahdo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa run muqdisho xaq uma laha 20 dhimashaa maalin اسماعيل سيتها برادر في عنتك fiicanahay brother soo dhow الحمد لله hortani waa maadsan tahay gabadhii naga horeysay iyo wiilashii naga horeeyeen iyagana waa maadsaniin ariniyo saddex waxyaabood isleeya problemkan meesha ka dhaca horta inta dhimatay qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahi subxaanahu wa tacaala janna firdaws allah ka waraabiyo ariniyo ismaaciil waxaa soo saaraya dhibka shacabka reer muqdisho sababta u soo saaraya waxay tahay tan koowaad guri walba way ogyihiin meesha laga soo baxo xaafad walbana way ogyihiin 90% waana lagu shaqaysanayaa been yaan la isku sheegin madaxweyne farmaajo iyo intay ka dhacday madaxweyne farmaajo ma kala jecel fila Soomaaliya ku jira waa iska qayilooya yariiso waa iska qayilooya war waxaan uma hayaan laakiin xaqiiqada meesha jirto shacabka reer muqdisho xaafaday ka soo baxana 90% dadkan wax qarxinayo iyaga waxaan ku shaqaysanaya niman cadaan ama reer galbeed ku shaqaysanay waana loo dhiibaya waygaana sameeyaan wax been la isku sheega iyo wax waqti la iskaga dhumayo nabad sugid iyaga waaye wax dilay dilil qorshaysan iyaga waa nabad sugida 90% wax magaalada muqdisho dilalka qorshaysan ka fuliyo nabad sugida waa qof caadi ah ama normal maskaxdiisa dilalka noocan oo kale ma dhici karto marka ani waxay la tahay runtii magaalada muqdisho dadka reer muqdisho guri walba waa naqaanaa hooyo walbana waa istaqaanaa carruurteeda galabtii intuu wax soo dilo hooyada habeenka haddana wax siinaysa xaafad walbana waa ognahay hebel iyo hebel iyo hebel xaafadooda oran karna marka ani waxay la tahay reer muqdisho horta ha arkaan dharaanka markay arkaan aan dhammaano markaas waxaa oran karaa tuugi nagu jiro wax dilay waa kana farta kusoo fiiqi karnaa laakiin madaxweyne aana dantiisa ahayn oo waxbana wadanka ka qaban karin caasimadda waxbana ka qaban karin aana kala jecleen dadka aanu soo afriisanaynin in lagu mashquulo gooni waayo madaxweyne maaragta khayr soo ag fariisanaya telefishinka ma rabo nairobi u dhoofay waa soo noqday
haddana mataqaana cadaanka oo maanta sweden kula noolaayay kula hadlay mataqaana wasiirka amniga wuxuu tagay belgium wuu soo noqday wasiirka amniga dhana belgium tagay wuxuu la fariistay reer galbeedka dhan oo la wada fariistay haddana caasimadda muqdisho qaraxa ka dhacoy ciraaq waa ka darana anaga 10 milyan aan nahay marka ani xaqiiqda meesha taalo waxay tahay waxaan ya waa way fuliyeen way la fariisteen nimankii cadaankii dadkii reer galbeedka way la fariisteen waa la xaliyey waxaan dhibaatada meesha ka socoto annaga reer muqdisho waa ognaa 90% caasimadda muqdisho waxa dhibaatada ka socoto guryaheena waa wax kor nooga imaada maahan wax gobolada kale nooga imaada maahan caasimadii waa carruurteeni waay waxaan qarxinayo waxaan wax fulinayo midda labaad waxaan fiir ismaaciilo waxaan wax sii daynaa informationka noocaan siinaya nabad sugidda waay nabad sugidda hore waxaa qabsadeen niman iyaga u shaqeeyo kadibna nimankaasna waxay usoo shaqeeya reer galbeedka waxay rabaan ku hagaaya soo bedelayan waa waxay ku noqonayaan xafiiska waxaa dhacday ismaaciilo gabar oo u shaqayso nabad sugidoo shaah gadayso sawir laga qaaday nimanka al-shabaab baa loo diray hooyo xataa iyaga naftigooda misdhaaya war hooyadan shaahee gadaysaay ha dilinina isla marka hooyada waa la dilay maxaa marka waxaa la rabay xataa madaxweynaha hadduuba saas tahay inuu screenka iyo nabad sugidda jaban oo kale inuu dhigto nabad sugiddan in meel laga maamulo in mataqaanaa eeba ogaanin xataa sirdoonka naftigooda meesha laga maamulayo iyo qofka recruitment sameynayo iyo qofka shaqeynayo waxaa la rabay wadamada reer galbeedka qayb ka mid oo qarsoon inay mataqaanaa oo shaqaala dad sameeyaan gooniya oo xataa aaba la ogaaninin marka ani runtii waxay la tahay maxamed cabdullaahi farmaajo usoo noqon nin horta farmaajo dalkan waxbana kama rabo xaqiiqda isku sheegno farmaajo galabtii jaad oo cunaa weli maaragta farmaajo in la amaano yariisoona waa qaylaa dadka reer muqdisho waa sognaa gudaha iska ognaa waxa maanta muqdisho ka jiro ismaaciilo gudaha waa nala soo sheegaya madaxweynaha wuxuu ku sameeyay dadka la shaqeynaya qaraabadeenna raximkeena wuxuu u sameynaya madaxweynihii وتليفون أنا لصوعي مدحويني واقعي ل 90% مدحوينه صبح صباح مرة توليها إسماعيل الله بس إنه جوجا مدحوينه ما سمع بين كلهم ضفرايا يريسوا واقعي لا أسقنا مالين ترى ضفرايا إندي سوا حنا قصير مركو تلفزيون صفر سنة مركني إنه من كان حالكني وحي لا تاي أنا هرت that's a good question حالك أنا وحي لا تاي ذلك الرئيس مقدشو هأوتشتان in banaanka u soo baxaan iska qabtaan nimankan abgaxisad wall worka ku noqon hadii ay iska qaban waxa bixi doona nimanka jasiira fadhiya ma fariisan doonaan nimanka caasimada qaramada madow u shaqeey ma fadhina waxaan waa iska cirinayna gobolkeena iyo dhaqankeena iyo diinteena iyo dhaqankeena u soo noqon hatta gaajo aan wada dhimano ruuxan dadkina gaajo u dhimanayaan dadkina waxbarasho ma haystaan nololna ma haystaan ninka cadaankana wuxuu leeyahay maalin walba 3 milyan aanisi 3 milyan oo gaajo u dhimanaysa soo socoto 4 milyan oo gaajo u dhimanaysa soo socoto markayna horaaba noo roonaa gaajada u dhimanayno ani marka xaqiiqda waxay nala tahay waa dhammaanay absolutely waxa ka dhacay adduunyada nagama dhaco xataa international community-gana lagama soo daayo telefishinada xataa wax naga dhacay 14 October waxaa naga dhimatay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu iscasiilay baad 14 October absolutely inuu maraykankiisa ku noqdo caruurtiisa inuu agsag oo dhex galo oo mataqaanaa speechkiisa iyo dacwadiisa iyo afmacaantiisa way dhammaatay wax raba male xasan maxamuud kadaalika wax raba male meesha waxaa u baahannahay mataqaanaa qof mataqaana wadankan badbaadin kar beeno noo sheeg madaxweyne wuxuu yiri habeen iyo maalin caasimada nabad sugida ku daadinaya ciidana dhisaya waxa sameynaya saana sameynaya madaxweyne muxuu ka qabanaa wasaaradda gaashaandhigga waxa loogu talagalay wasiirka mataqaana in gaashaandhigga loogu talagalay madaxweyne muxuu ka qabanaa maalinta madaxweyne waxa la rabaa inuu xafiisyada la xisaabtamo wasiirada la xisaabtamo inuu banaanka soo baxo dadka inuu la hadlo madaxweyne isku dhajinayo meesha kaliya oo mataqaana oo shalay markuu baxay boosaaso aaday سعيد مالا نين كان لصوت مدحوينه وصل بقينا على السعودية ومرسل مدحوينه كديرانين باور كان قرح سدح بونتي وسومري sida aad qalo gobolka banaadir xarunta meesha laga soo galo gaarigan meel lagu baakinay ilaa haddana in loo qabto ma jiro ani horta waxay bila tahay waaba ku sheegay nabad sugidda waxaan wax fulinay sewa askarigan meesha joogay way kan dharka gashanayga way kan nabad sugidda wax sameynaa fiir dawladda xasan maxamuud least operational sameynaa xaafadaha la galay waa la soo qabanay madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdiraxmaan ma raba inuu dadka xataa la hadlo isla weyni iyo qob iyo waxa ku dhex jirto mataqaana iyo dadka inuu dhex soo dhex fariisto madax qarana meesha ani waxay la tahay horta qabowgu ka nasta madaxweynihi iyo barafka meesha ka imaaday labada sanana wuxuu isleeyahay waxaan ku dhameeyay America ku noqo adoo kistaada fiir madaxweynaha lacag fiican oo asaga qaata kistaada markaa qaatay United Nationka America ku noqo caruurtiisa gabdhiisa inuu dhex fariisto laakiin wadankan wuxuu uga tagay sumcad xumo sharaf xumo karaahinimo uga dhex tag war dadkaaga soo dhex fariiso war madaxweyne dhan oo mataqaana isla weynaysiinay oo dadka xataa aan la hadlayn oo telefishinka aan soo fariisanay runtii ani waxa kamid ah qofka leeyahay Ismaaciilow ani madaxweyne farmaajo dadka aad iyo aad u taageersan wallahi oo billahi taala laakiin xaqiiqda ku sheega marka maqlay madaxweyne inuu qayilayo oo mataqaana banaanka uu soo bixin waa ka qoostay niman xataa waxa ii soo sheegay 100% lagu kalsoon yahay Ismaaciilow hadalkay aniga hadal oo mataqaana 100% ana soo ma santahay madaxweynaha ku dheeraa waa ma santahay waan kaaga mahadcelinayaa thank you qofka waa iska qiiroon ay dadkiisa yaalalaayay
hal raalli hada asxaabi qofka waxa waaye marka uu qiiroodo ama marka dadkiisa la laayo waa dareemi kartiin waxa aniga isoo fadhiisiyey waxay ahayd maanta anigoo life geli karin oo ilinta iga socoto markii lay sheegay qaraxa xamarweyne ka dhacay iyo muqdisho mool meesha ay tahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun dowladda waxaan leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheyrna waxaan leeyahay shacabki waa dhammaadeene walaalayaalow kuraasta intaa ka kacdiin ma waxaa rabtiin muqdisho oo cidlaa inaa aragtiin mise waxaa rabtiin muqdisho oo dadkeeda nool yihiin inaa maamushiin bal ilaahayn ku dhaariyey bal ogaada taas bal ilaahayn ku dhaariyey war inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheyre dadka aa maamulaysiin yaa waaye ganacsigaa la laynaya hantidii shacabkaa la laynaya hooyooyinkaa la laynaya dhalinyaradiyaa la laynaya magaaladayaa gubanaysa 5 jimco isku xigta suuqa bakaaraha iyo suuqyada kale ay gubanayaan weli lama sheegin ilaa hadda ciidiska wax weydiisa male bal ilaahaynu ku dhaariyey dowladda waxa ay mas-uul ka tahay ayaa ah waxa dhaca bal ilaahayn ku dhaariyey dil hadduu ka dhaco london wallaahi bilaahi tallahi dil hadduu london ka dhaco war meesha ugu dambaysa london iyo maxaa la dhahayey congresska london waa laga ogyahay ilaahayn ku dhaartayna been kuu sheegin caddaymo in la keeno qofkaas oo cc camera la raadiya xataa shagaaladan ku hormaray waa cc camero iyo dhiigga qofka annaga waxa waaye dna ma laga qaadin dadka ma tiro koobna maxaa la dhahayay shaqadii la rabay marka inay guddoomiyayaasha degmooyinka iyo saraakiisha saldhigyada iyo nabad sugidda degmooyinka ay qabtaan ayaa gebi ahaanba maqan micnaha waxaa leeyahy shacabku waxa qabtaan shacabku waxa qabtaan shacabku goormay wax qabanayaan shacabku goormay wax qabanayaan cumar cabdikaamirada kuma dalbana shacabku goorma ayay wax qabanayaan bal ilaahayn ku dhaariyey shacabku goormay wax qabanayaan bal ininka aynu weydiinaya shacabka cabsoonaya oo qofka maanta la sheego beri intii loo yimaado xabad lagu dhufanayo aniga markii la dhaho hebelaa maanta sirtaas arkay oo sheegay inaan ku farxo waay laakiin beri markii la dilo oo warqad la dul saaro oo la yidhaahdo fariintaasuu sheegay haddaa hebelow u sheegay fiiriya waxay leeyahay hebelow sirtaas u gudbiyey in guryahaas qarax lagu diyaarinay bal ilaahaynu ku dhaariyey dadku inay cabsoonayaan shacabku waxa u keena waa waxaas laakiin haddii la arko guddoomiye degmo iyo taliyo degmo nabad sugid iyo oo shaqaynaya oo degmada kuwa qashinka fiiri nadaafad darrada markii la qabto fiiriya kuwa guryaha ku dhumaalasiyan lasoo qabto xaafadan inta degan lagu mashquuliyo maxay qabtaan shaqada ay qabtaan maxay tahay shaqada ay qabtaan guddoomiyaha degmada oo lacag ku qaato maxay tahay bal inanka aynu weydiiye wax loo idmaday maxay tahay bal ilaahaynu ku dhaariyey shaqada degmada loo idmadaa waxay tahay in degmadaas dadka ku nool baahidooda iyo amni daradooda iyo wadooyinkooda iyo istaraatiijiyadooda iyo brotocoolkooda iyo iskuuladooda iyo dhulkii dowladda inuu dhismaha dowladda halkaas kala qayb qaato isxilqaamka dowladdu ay sheegtay in halkaasuu ka bilaabo laakiin hoteella ayay qayilayaan cid bini aadan ka warhaysa male saldhigiyaa la weeraraya bal ilaahayn ku dhaariyo firi saldhigii degmada la weeraraya maxaa keenay in saldhigii degmada lagu weeraro bumagacmiin runta markaa inii sheego wallaahi iyo bilaahi iyo tallahi bahasha halkaas ka dhibsanta bahasha meesha la-da waa halkaas saldhigii degmada oo la rabay in laga cabsado ciidankii saldhiga ay shaqaynayaan oo xaafadii ay ku dhex jiraan oo qabanayaan dadki oo habeen walba juhdi ay ku bixinayaan waa habeen iyo maalin walba jidka maraa la yidhaha isaga shati karuqaad la baaro oo baabuur kale maraa la weydiiyo oo degmo walba iskoosideeda baabuurka iskoos kale usoo gudbaya ee baarto xaguu qarax ka imaanaya ba ilaahaynu ku dhaariyey realitiga midaas ah laakiin cid rabta male waxaan ogaaday markii la keenay kuwa mantala oo aan waxba qabanaynba oo degmadii xataa maamulkii waxaa isku dhacay guddoomiyihii arrimaha bulshada iyo guddoomiyihii amniga iyo guddoomiyihii degmada isku dhacay bal ilaahaynu ku dhaariyey shaqadaada ma taqanin shaqadaada qabso aniga degmadan markaa rabaa imaanaan bal ilaahaynu ku dhaariyey bal fiiri dad la rabay inay isla shaqeeyaan oo guddoomiyaha arrimaha bulshada uu ka shaqeeyo arrimaha bulshada guddoomiyaha amniga degmadan uu ka shaqeeyo amniga degmada uu ka shaqeeyo oo xogta odayaasha iyo dhalinyarada oo habeen walba ay ku bixi ayaa degmadii bumba lagu weeraraya bal fiir ilaahay ku dhaari degmada yaa shaqeeyay degmada wardhigley isinka ilaahay maalin bumba lagu weeraranaysa jirin saldhiga wardhigley bumboyna lagu weerara bal ilaahay ku dhaari kuwaasaan dowladnimo ka sugana in la cabsoodo ayay ahayd in la cabsoodo ayay ahayd haddii ciidanka degmada ku yar tahay waxaa la rabay inuu taliyaha u yiraahdo waxaana taliyihii degmadan ciidan aan dalbaday taliyihii booliiska ciidana ka dalbaday waa maqlisin codka waa kaas shalay ciidana ka dalbaday xaafadda al-shabaab iyo anaka dhalinyara isku xabadaysay xaafadaha lay sheegay ma jirto ba ilaahayn ku dhaariyey ma jirtaan ku dhahay inuu yidhaahdo aniga saacaddaas laga bilaabo degmadaas ammaankeeda waa iska casiilay ogaada shacabow wixii ka dhacaya lama weydiinayo cid u diidi karta male sharaftaa ah
shaatigiisa iyo magaca uu gudoomiyaha uu taliyaha uu ku magacaaban yahay bal ilaahay ku dhaariyay saldhigii degmada bombooyin lagu weeraraa degmadii bombo lagu weeraraa kuwii madaxdii degmada la weeraraya bal ilaahay ku dhaariyay degmadii dhexdeedii laga weeraraya qaraxa marka laba beegsanayo lambar 4 iyo waa iska easy marka bal ilaahay ku dhaariyay noocaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha u shaqeyn laayay noocaas u shaqeyn laayay inay yiraahdaan gudoomiyaha degmada iyo taliyaha degmada saddexdiina waxaan ka rabnaa dilkii ka dhacay degmadan waxaan ka rabnaa degmadan bishan gudaheeda isxilqaam oo wado walba qashiga laga nadiifiyo madaxweynaha boqosho ku iimaanay ilaahan ku dhaari maxkamadihii islaamiga oo xaafadaha nagu soo gali jirin xaafadaha xataa nooma imaan jirin ayaa magaalada muqdisho amni noqotay gacantaa la goonayey qadaacadu qariiqa lug iyo gacana la isdhaafinayey ka tuugana way dili jireen ciidanka maxkamada way dili jireen markaasaa dadku waxay u riyaaqeen in lacagaha jid kale la mari jiray bal ilaahayn ku dhaartay thank you bal ilaahayn ku dhaartay lacagta wallahi bakaara lala aadi jiray oo wallahi oo billahi oo tallahi waxaa arkeen in lacag bac ku wado oo bakaara lugeenay cid bini aadan oo aadan samale xagee ka yimaad dadkan ma ruushaan laga keenay markii dowladda dhaltay ruush ma laga keenay waa may waa waxaan waa istiraatiijiyad yar war haddaad inaad wax qabato u baahan tahay wax waa qabanay horaan kugu sheegay maanta in xil la helaa magaalada muqdisho waa ka fududahay in wax la qabto waa adag tahay maanta shalay laakiin waxay ahayd in qofku uu xil helo in qofkaan la dalacsiiyo in darajo loo dalacsiiyo way adkeyd oo juhdi badan ayaa lagu bixin jiray wax qabadkiisa maanta laakiin hebel intuu ka yimaado qurbaha oo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qurbaha ku wararsiin ayaa muqdisho intuu yimaado leeyahay waxaan ku qabiilahay ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa xil in la magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabaya wuxuu imaanaya wuxuu leeyahay wasiirka gudoomiyaha gobolka banaadir aan ku qabiilahay xilkaasaan u baahanay wasaaradda meela la geenaya bal ilaahay ku dhaariyey wax iska weydiinaya habeeraata ma jirto qofkan war shalay markuu qurbaha joogay xataa ma aha nin dadka masaakiinta lacag u soo diri jiray u qaybin jiray no way bal ilaahay ku dhaariyey bal ilaahay ku dhaariyey ilinta iga socota iyo khirada iga socota sidaas war magaalada muqdisho amnigeedu waa la qaban karaa anaa inii sheegay waa la qaban karaa laakiin xaqiiqo kama aha gudoomiye goboloo saxa la keenayaa 17 gudoomiye degmaa la keenayaa 17 gudoomiye booliisa la keenayaa 17 nabad sugid ayaa la keenayaa taliyaala bal ilaahay ku dhaariyey faraha la iskala baxa markii lay keeno dhalinyarada xaafadda degan waa israqaan waa ii sheegaan waxay leeyihin hebel iyo hebel iyo hebel shalay al-shabaab ka soo goosta israad awey dhaqan celinaan geenaa macaa degmada iima joogaayo dhaqan celin ayaan geenaa 2 sano halkaas ayuu kusoo jiraya qur-aankaa la soo badaya xabsiga dhexaa lagu dhaqan celinaya bal ilaahay ku dhaariya xaqiiqada jirtaa sidaas ah laakiin lama rabo in wax la qabto anigoo ni jecel waqtiga awgiis wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu